Ladies and gentlemen, waa idin salaamay videogan waxaan iga tusi doonaa sida loo sameeyo markaas e-learning website and step by step. Hadda muuqaalkan ayaa ugu socdaa. Muuqaalkan waxa ugu socdaa qof walba oo markaas bilaabaya danaynaya markaas inuu barto xirfadda markaas website sameynta gaar ahaan sida loo sameeyo markaas e-learning website from start to finish. Hadda muuqaalkani waxaan ku tusi doonaa markaas sida loo sameeyo website-kan ku muuqdo oo kale oo markaas ahaan e-learning website sida koorsooyinkaada lagu soo bandhigo, sida page contact us lagu sameeyo, home-ka about us-ka, sidoo kale lagu sameeyo login iyo registration pages lagu sameeyo sida ku muuqato. waxyaabahan ku siin doona waxaa kamid ah markaas koorsadan inta socoto waxaan ku siin doonaa template diyaarsan oo ready template ahaan oo aad kaliya 1 daqiiqo ama 2 daqiiqo gudahood ku soo import garanayso oo design-kan iyo waxyaabahan uu wato. uma baahnid inaad page walba iyo wax walba abuurto. template-kan waa mid diyaar ah inaga ayaan ku siinay oo qaybta description-ka waxaad ka helaysaa videogan linkigiisa ayaad ka helaysaa. soo template-kaas markii aad la soo import garayso waxaad awood u yeelan doontaa inaad markaas aad dhisto qayb walba ama page walba oo kamid ah website-kan. haddaba si aad e-learning website noocan oo kale aad u dhisto waxaan markaas aan sameynay ama waxaan qaadi doonaa kaliya 12 step ayaan qaadi doonaa. step koowaad waxaan uga hadli doonaa sida loo helo domain iyo hosting. domain iyo hosting-ka waa magaca website-kaada iyo sida internet-ka ama markaas hawada loo soo geliyo website-kaada oo qof walba oo caalamka jooga soo access karayo. marka labaad oo domain iyo hosting iibsato step kale waxaan ku arki doonaa sida qaybta backend-ga ee website-kaada loo setup karayo. step-ka saddexaad waxaan ku arki doonaa markaas sida template-ka aan hadda ku sheegay oo ready template ah oo diyaarsan loo soo import karayo. step-ka afraad waxaan ku arki doonaa sida loo abuuro markaas course classes loo abuuro oo course class marka abuurto si la mid ah markaasna aad awood u yeelatay inaad markaas class walba aad casharadiisa aad soo dhigto oo aad markaas videoyaal haddii aad ka soo qaadan lahayd Vimeo ama YouTube. sidoo kale waxaan ku tusi doonaa class walba markaad abuurayso qiimaha sida loo siiyo oo markaas maxal ahay sida sale price iyo sales price-ka dhamaantood loo siiyo. step-ka shanaadna waxaan ku arki doonaa marka sida loo sameeyo markaas logo website-kaada u gaar ah. step-ka lixaadna waxaan arki doonaa sida loo abuuro qaybta header-ka ee kore ee website-kaada sida login-ka iyo registration-ka iyo pages-ka iyo waxyaabahaas. sidoo kalena waxaan ku arki doonaa sida loo sameeyo qaybta hoose ee markaas footer-ka loo yaqaan. step-ka toddobaad waxaan arki doonaa marka sida loo bilaabo dhisitaanka pages-ka sida waxaan arki doonaa loo dhiso home page-ka bilow ilaa dhamaad oo koorsooyinka loogu soo display garay ama loo soo dhigo. sidoo kalena maxaa la sawirada iyo waxyaabahaas dhan loo bedbedelo. step-ka sideedaad waxaan ku arki doonaa course page-ka sida loo setup gareeyo ama loo optimize gareeyo. step-ka sagaalaad waxaan ku arki doonaa markaas sida loo dhiso about us page-ka oo markaas ah macluumaad ku saabsan website-kaada ama company-kaada. sidoo kale step-ka 10aadna waxaan arki doonaa markaas sida loo dhiso contact us page-ka oo ah markaas meeshii ay dadka kala soo xiriiri lahaayeen. waxaan ku tusi doonaa marka qof fariin markaas uu soo diray markaas inaad awood u yeelan doonto in gmail-kaada ku soo dhacdo oo aad u jawaabi doonto. step-ka 11aad waxaan arki doonaa marka qaabka markii website-ka ardayda ay koorsada ka iibsadaan markaas enrollment loogu sameeyo oo markaas looga aqbalo iyo maxaa la dhahay inta arday ee koorsadaada qaadatay waxyaabahaas dhan si loo arko. sidoo kale waxaad awood u yeelan doontaa markaas ama class-kan ku tusi doonaa step-kan sida markaas loo abuuro certificate shahaado sida ardayda markaas koorsada dhameysay ay u helaan oo loo abuuro. step-ka ugu dambeeya ahna 12aad waxaan arki doonaa markaas sida xawaaraha website-kaada kor loogu qaado oo dadka markaas raba maxaa la dhahay website-kaada inay soo booqdaan ama koorsadaada ay qaataan inaysan wax culeys markaas aysan la dareemin. ugu dambeynna marka mobile website-kan dhisi doono wuxuu noqon doonaa markaas mid dadka haysta markaas mobile iyo tablet noqon doona markaas mid ku optimize garaysan oo waxaan arki doonaa qaab mobile ahaan website-kaada sida loogu optimize gareeyo sidoo kalena tablet ahaan sida uu u shaqeeyo. haddaba marka haddii maxaa la dhahay aad inta ay koorsadaana socoto haddii aad wax su'aala qabta ama waxaad fahmayso waxaad isku daydaa inaad qaybta comment-ga markaas su'aasha aad noogu reebto waxaan isku dayi doonaa inaan kaaga jawaabno ama qaybta markaas macluumaad contact details-kana qaybta description-ka waa ka helaysaa waa nala soo xiriiri kartaa. haddaba marka aan bilowno muuqaalka oo dhammaystiran. step koowaad markaas waxaa arki doonaa sida loo helo markaas domain iyo hosting. marka hore san domain iyo hosting u helno waa maxay domain iyo hosting. domain iyo hosting waa magaca website-kaada sida hebel.com sida bbc.com oo kale. hosting waa meesha website-kaada uu ku host garaysan yahay. saan u helno waxaad furaysaa tab cusub kadibna waxaad tagaysaa webdise.com/hostigator. website-kani waa linkiga markaas aad ku dhufanayso waa kana ama aad tagayso si aad markaas discount ama qiimo dhimis wanaagsan aad u hesho. sidaan ayaad u qoraysaa Google-da. haddii kale linkiga markaas waxaan dhigaa qaybta description-ka ee video-gan ku dhufo. markaas sidaas u qorto waxaa dhahdaa marka enter ayaa leedahay.
soo marka saa ujeeda wuxuuna keenayaa meeshan oo ah markaasi hostigator waa shirkadan ka iibsan doono hosting and markaasi domain. waayo hostigator waa shirkadaha badanaa markaasi aan adeegsado aan ka iibsado. so waxaad helaysaa markaasi waxaad ka helaysaa sida meelahan ku qoran ay sheegayaan markaas support 24/7 ahaan oo mar walba wax walba cilada ku qabsato support ay ka siinayaan. sidoo kale inta badan domain hostingkooda aad qaali uma aha markaasi. so marka si aan u bilowno waxaad ku dhuftaa meeshan ay ku qoran tahay get started ku dhufo. get started marka ku dhufatid waa kana marka saddexdan balan ayuu ku siinaya hajin balan pay balan iyo business balan. saddexdan balan midka arabta ayaa ka dooranaysaa. balankan koobaad ka soo qaad waxaad ku dhis kartaa ay ku leeyihiin hal website kan waxaa ku dhis kartaa ilaa 5 website kan waa unlimited website lagu dhis karo. marka haddii aad tahay hal qof mid walbana saa ujeeda qiimihiisa intaan waa 2.7 3.5 iyo 5.12 mar walba marka haddii kan marka aad rabto inaad istahaalo website macnaha oo markaas maxaa la waxyaabo badan aadan u baahnayn midkan u horeeya la iska iibsada oo loo yaqaan hajin balan. ana marka waxaan ku tusi doonaa code ayaan ku sheegi doonaa coupon code qiimo dhimis ku siinayo. marka kanaan aniga hadda iska dooranaya waxaan leeyahay buy now ayaan leeyahay. buy now marka dhahdo meeshaan uu keena marka xigta soo meeshaan dhowr step ku qoran. stepkan koobaad saa ujeeda user domain uu ku leeyahay magaca door website-kaada. so kaba soo qaad magacaan dooranaa marka magacaan doorto marka magaca website kasaan u qoro meeshaan aad furaysaa. meeshaan marka aad furto marka waxa ujeedaa waxa ku haystaa wax extension lahay .com .online .site .website marka mid aad rabto dooro. aniga hadda .com ayaan iska dooranayaa maadaama ay tahay mid common ahan. so .com marka aad ku doorato saa ujeeda wuxuu ku leeyahay website-kaadi lama heli karo .com oo hore ayaa loo qaatay. meeshaan marka waxaan sameynayaa kale ayaan ku daraa for example kaba soo qaad magac baa bedelaya. so magac marka meeshaan bedelo intan waxaan ka dooranaa .com saano kale ayaa la rabaa. marka magacaada hadda waxa ujeedaa website.com in la heli karo oo markii hadii la heli karo meeshaan aad cagaarati ku soo fuulaysaa. saa ujeedana domain waxay ku siinayaan marka u horeyso free 1 year ah oo hal sano ay ku siinayaan. so marka waxaad adiga iibsanayso marka u horeyso waa hostingka domainka free ayay kugu siinayaan. soo sidaas niyada ku hay marka kuwan kale .club.site waxaad rabto adeegsan kartaa. marka aniga hadda midaan .com ay dooran marka magac domainkeeda aan secure ku sameeyo la heli karo aan ogaado hoosan u soo dagaa. meeshaani lacag $14 ayaa kula socoto oo wuxuu ku leeyahay domain privacy ku darso oo macnaha dadka qaariyaysan email iska ka soo dirin waxyaabahaas. marka hadii aadan common ahayn qof caan ah waxyaabahan uma baahnid oo TikTok ka qaadi kartaa. hadhow hada arabta gadaal ugu darsan kartaa qaybta si banalka no problem. marka TikTok aan ka qaadi inta qaybta labaad stepka labaad wuxuu leeyahay juice waxaad doorataa hosting balan kan soo doorano waa hajin hadii aad xasuusato faraha ka qaad meesha la isku haysto waa meesha. marka meeshaani waa bilaha muddada markaasi aad lacagta bixinayso. bilaha marka hadaan furo waa hal bil ku bixi karaa 2 bil 12 bil 36 bil inta raba ku bixi karaa. soo hadda qiimaha ii dooran hadii aan hoos soo dego hal markii hoos u soo degto waxaa sameeysaa middaani camal oo stepkan shanaad waxyaabahan lacag hadii ku saarantaa TikTok qaad sida kan oo kale hadda uma baahnin TikTok ka qaadana waxyaabahan gadaal SSL logan uma baahnid side logan. soo hadda fiir marka $105 waa 36 bilood. marka hadda maxaan sameynaa meeshaani marka hadda bilaha waa bedeleynaa. meeshaani waxaan ka dhigaynaa bisha kaba soo qaad hal bilaan ka dhigaynaa. okay hal bil imisa ay naga siinayaan. haddaan hoos soo dego hal shay bil waxa ujeedaa $25 inay tahay. marka waxaan ku siinaa coupon code coupon code ayaad meeshan gelinaysaa. coupon code kan waxa lahaa web dhis ayaa lahaa web dhis markaad meeshan geli kadib validate ku dhufo qiimahan waxaan rabaa markaas inuu ka dhaco ayaa la rabaa 25 yes. saa ujeeda hadda wuxuu noqday 14 waxaad discount aad u heshay markaas lacag aad u badan ayaad markaas discount u heshay 11 wax saas ayaad markaas maxaa la discount aad u heshay. marka kaasa hadda qiimaha 14 noqday. marka midaan ku talanaa sanadka u horeyso weliga bil ha iibsan. sanadka u horeyso qiimo dhimis badan ay ku siinayaan. waxa la iibsadaa inta badan sanad ayaa la iibsadaa 12 bilood. sababtoo ah 12 bilood wax sidaas u badan ma hadii aan 12 bil ka doorano meesha furno qiimo wuxuu noqonaa markaas $50 ayuu noqonaysaa. hadii u badato bishii waxay noqonaysaa markaas kaba soo qaad $4 wax sidaas camal kan badan ay leedahay. marka sanadka hore hub ina markaas intaas aad iibsato sanad sababtoo ah hal bil hadii aad iibsato wax macna markaas ku keenayso. marka intaas aad sameeyso soo stepka saddexaad wuxuu ku leeyahay waxaad abuurataa account soo ujeeda meeshan waxaa gelisaa gmail-kaada marka gmail-kaada ku celi waa muhiim. gmail-ku hadhow waxaad ku gal lahayd login ku dhihilayd inta waxaa siisaa markaas ka soo qaad
password ayaad siinaysaa. Okay, password aad siinaysaa. meeshaan 4 number sameyso kulay security pin waxa laga yaabaa hadhow marmar qaar inay ku weydiiyaan ku dhahan security pin kaada sheeg marka caawinaad weydiinaysid. hubi sidoo kale meeshaan marka waxaa waaye stepka afraad macluumaadka billing information gelin macluumaadka lacag bixinta magacaada inta ku qor magaca u dambeeya phone numberkaada iyo wadada aad joogto marka intaas ku qorto companygaas waa optional oo iska dhaaf karta addresskan labaad waa optional iska tag country wadanka Soomaaliya ka door inta Soomaaliya ay dooran city magaalada Muqdisho stateka gobolka Banaadir zip code-kan Soomaaliya maadaama zip code aysan lahayn iska qor marka xigta meeshaan wuxuu ku leeyahay lacagta laba ku bixi kartaa waxa ku bixi kartaa PayPal oo ku bixi kartaa credit card soo credit card waxa sameeysaa marka numberkaada iska gali okay numberkaada iska gali marka numberkaada gelisana meeshaan waxa gelisaa CVV code-kaada iyo waxa saddexdaas number inta expiration card-kaada inta dhacayo faahfaahinta master card-kaada ku qoran gali marka inta sameeyso step-kan shanaad waxaan hadii lacalasan ay tig kugu saaran yihiin tigta ka qaad okay hubi soo marka inta sameeyso hoos soo deg qiimaha saa u jeedada 47 ayuu noqday markaan xogtii aan buuxinay soo saaido u yaraade marka waxa sameeysaa marka u dambeeyso meeshan ay ku qorantaa termskan waan kugu raaca tigsaar marka hadda waxa sidaas ku dheeyhin kadib waxa dhahdaa markaasi jack out ayaad ku dhufanaysaa soo markii jack out na ay dhahdo sidan ay kugu soo baxaa soo waxa u jeedaa markaasi inay lacagtii markaasi ay ka aqbalayaan soo lacagta soo jeedo wanaga akoonkeena markaasi way kala baxeen soo marka inta waxaan leenahay macluumaadkeena safe ayaan leenahay emailka sababtoo hadhow login ayaan ku leenahay ama sign in okay soo marka intaas aad sameeyay sidan ayuu kugu soo baxaa shaashadan ayuu keeno soo meeshaan wuxuu ku leeyahay wax yar nooga sheeg maxaa lahayd hadafkaadi waxyaabaha leedahay soo marka waxyaabahan skip ayaan iska leenahay oo qasab wax sida qasab maaha soo maxaan leenahay hoos ayaan u soo degaynaa kadibna waxaan ku dhufanaynaa skip ayaan leenahay oo naga gudbi soo meeshaan waxaa leen close ayaan leenahay oo iska xiranaa soo marka inta ayuu ku keenaya close marka dhacda qaybtaada dashboard soo marka waxaan leenahay kaliya install WordPress soo install WordPress marka dhacda sidan ayuu kugu soo baxaa kaliya waxa ku dhuftaa meesha ku qoran tahay install now kadib marka inta ayuu keenaa soo inta waa muhiim markaas macluumaad aad gelinayso soo meeshaan waxaad gelisaa markaasi macluumaadka markaasi WordPress sida kaba soo qaad adminka soo aan kala saarno meesha ugu horeysa wuxuu ku leeyahay kaliya waxa gelisaa site name magaca website-kaada soo waxaan hadhow bedeli kartaa kuwan soo kaliya magaca website-kaada sidoo kale site-kaada muxuu ku saabsan yahay soo maadaama hadda uu yahay hoob sameyn waxaan sida website loo sameeyo waaye okay marka xigta marka meesha ugu muhiimsan waa tan soo meesha admin username iyo password u sameeyso hadhow mar walba aad WordPress login ku dhahdo qaybta dashboard-kaada aad ku aragto soo meesha hore magaca geli kadibna password u sameeyso marka xigta marka wuxuu ku leeyahay meeshaan waxa gelisaa emailka markaasi emailkaada geli soo emailkaada hadhow gadaal waa gelin kartaa kaasi haddana waad gelin kartaa laakiin labada ugu horeyso username iyo password waa muhiim soo isku day inaad xasuusnaato soo marka intaas aad sameeyso kaliya waxaad sameeysaa hoos soo deg soo kadibna waxaad dhahdaa markaasi install soo saa u jeeda marka hadda waxaa noo soo degaya markaasi WordPress waa uu noo soo degayaa soo waqti yar ayay qaadanaysaa iska sug okay soo saa u jeeda marka hadda waxaa u jeedaa inuu WordPress noo soo dega marka saan saadkeena u daawano soo meeshaan ayaad markaas waa dul tagaynaa kadibna tab cusub ayaan furaynaa soo hadda saa u jeeda wuxuu leeyahay marka your connection is not private oo maxaa laga wadaa marka macnaheedu maxay tahay marka hore website-kaada ayaa waxay tahay inuu sameeyo wax loo yaqaan markaas propagation wax kale ma hostgator ayaa markaas waxay qaadaysaa dhammaan domain-kaada kadibna waxay gaarsiinaysaa dhammaan serverada dunida hey qofkan wuxuu iibsaday domain name soo ina markaas domain name iibsatay una jira ayay tusaysaa soo laga yaabaa marka inay qaadato 20 daqiiqo soo mar walba soo laab oo refresh garay soo hadda muddo kadib marka hadii aan ku soo laabano site-keena soo saa u jeedo marka hadda site-keena markaas waxa u jeedaa inuu live yahay oo mar walba qof walba oo markaas internet ku jiro uu soo access gareyn karo ama uu soo gali karo soo marka si aan qaybta dashboard-ka u galno website-keena ama markaasi aan qaybta dashboard-ka ama back-end-ga markaas aan u galno soo waxaan u baahanaa markaas inaan log gareeno soo kaliya waxa dhahdaa markaas /login ama hadii kale waxa dhihi kartaa sometimes inuu login ka diida laga yaabaa wp/admin oo u taagan markaas WordPress/admin soo labadaba waa isku mid soo marka intaas aad dhahday kadib waxa dhahdaa enter soo marka wuxuu ku leeyahay waxaad gelisaa markaas username-ka iyo password-ka aad soo sameysatay soo marka WordPress soo dejisanayna username iyo password aan soo sameysano soo marka aad gelis kaliya waxa dhahdaa markaas login soo saa u jeeda marka hadda waxa u jeedaa inuu na keena qaybta back-end-ga ee website-keena soo mar walba website-keena sidaas ayaad markaas u login gareyn kartaa
oo aad ugu gudbi kartaa qaybta backendiga. So inta waxaa loo yaqaanaa backend, qaybta horan waa front, intana waa backend. So marka inta ayaad markaas ka maamuli kartaa website-kaada. So markaan u gudubno stepka labaad. So stepka labaad waxaan ku arki doonaa qaabka loo setup gareeyo qaybta backendiga ee website-kaada. So si aad u setup gareyso meeshaas kora fur, kadib waxyaabahan oo dhan tigtika wada qaad hal mar si waxaan ay kaaga qarsoomaan. Okay, marka intaas sameyso marka xigto waxaad tagtaa qaybta bidixdaada ee setting ay ku qoran tahay, kadib waxaad si dul doorataa general ku dhufo. Okay, general marka ku dhufto meeshan site title iyo tagline oo ku siinaa. Meeshan site title waa ciwaanka website-kaada, kadibna waxa soo raacaya tagline-ka oo hoos imaanayo. Website-kaada maqaaxa ku qeexaysa maadaama kan oo yahay e-learning website, hadalkaas yar ayaan meeshaas kaga qoraya. So marka inta sameyso wax yar oo soo dog meeshan waxaa dhacda anyone can register tigsaar oo website-kaada hadhow registration iyo login u yeelaysa qof walba si oo markaas iska register gareyn karo. So marka taas tigsaar marka xigta isla meeshan adigoo joogo waxaad doorataa meeshan ay hoosteeda setting hoosteeda ay ku qoran tahay barmi links ku dhufo. tan iyadana waa muhiim. So meeshan marka waxaad ka doorataa postne, macnaha wuxuu ku siinayaa tusaale ahaan page-ka aad joogto iyo meesha kasii joogto magaciisa. Website-kaada aad joogtaa /home camal oo ku leeyahay, hadaa home ku joogto, hadaa about aad joogto, linkiisa waxuu ku siinaa. mar kale ku celiso ayadoo waxaad sameysaa 2 jeer save garay. Okay, so marka xigto meeshaas korata kadib waxaa dhahdaa edit profile dheh. So edit profile markaa dhahdo waxaa sameysaa meelahan marka midabyada waa ka bedeli kartaa, haddii markaasi waad ku falfalaadi kartaa, macnaha meel walba horey gadaal waa ka mari kartaa. So aniga hadda marka midaan madowgan iskaga dhaafaya. Marka intaa sameyso wax yaroo soo deg nagasti namekan waa bedeleynaa. nameka meesha hadda web sameynaa ku qoran waa bedeli karaa meeshaasi haddaan furo web sameyn bas. mar kaliya adaan wax isdhibin meeshaas magac la iskaga qor, magaca rabto inuu kasoo muuqdo meesha oo hadhow dadka ay arkaan admi koorsada iibsanaya teacherka magaciisa ama qofka iskalaan. hadda web dhisidan ku qoro meeshaasaa furay, haddana waa ka helaysaa. hadda waa tirtiraa fiiri mid kale aan qoraa geedi meeshii isla meeshii aan furaa, haddana waxaa arkaysaa isla geedigii. So sidaas waa marka geedi aan hadda ka dooranaa. marka xagga fiiri kor waxaa ka aragtaa inay geedi isku bedeshay. Okay, web dhisida haddana isku bedeshay. marka kaasa sidiisa hore iskaga dhaafaa. Okay, marka intaas sameyso wax yaroo soo deg meesha sawirka waa ka bedeli kartaa, grafter account la leeyahay ka dhex furna, kadib waxaa dhahdaa update profile. marka intaasaan sameynay markaan u gudubno stepka xiga wuxuu ahaa setup gareynta backendiga. stepka xiga aan aragno. So stepka labaad waxaan ku arki doonaa sida template-ka oo dhan markaas loo soo import gareeyo. So marka ugu horeyso waxaa ku tusaa si loo soo dejiso template-ka. saa template ku soo dejisato waxaad ku dhufataa linkiga videogan aad daawanayso usoo labaad, kan koowaad maaha kan labaad ku dhufo. kadib inta ayuu ku dhex keenayaa. meeshaan markuu ku dhex keeno waa Google Drive. template-ka saskiisan xoogaa waa 200 iyo wax yar dheer yahay MB. mar kaliya waxaad dhahdaa download ayaa leedahay, aad ku dhufanaysaa saa ujeeda meeshaasi, kadib asiga ayaa kuu soo degayo. videoga marka aad qaybtiisa dambe kugu tusaa website-kaada lagu soo upload gareysto. marka hubi inaad template-kaas la soo degto. waa website-ka ka kooban yahay waa free oo website-ka aniga hore u dhiso, markaas adiga wax yar ka bedbedelaysaa naqshadii aniga ku habeeyay. marka sidaas template-kaas la soo deg. linkiga labaad ee videogan ku dhufo hoostiisa qaybta description-ka. Okay, marka intaas aad sameyso template-ka la soo degto waxaa sameysaa waxa aad tagtaa markaasi qaybta dashboard-ka ama backendiga ee website-kaada. aniga hadda dashboard-kan dhex taaganahay, kadib waxaa ku dhufataa plugins toolta, kadib waxaa kasii doorataa add new. So waxaan u baahanahay plugin cusub oo markaas shaqadan noo qabto oo markaas noo soo import gareeyo. So meeshaan waxaa ku qortaa marka all in one WP. Okay, kadib waxaa dhahdaa enter, sidaas u qoran tahay. So plugin-ka aan u baahanahay marka waa kaasa WP migration ay ku qoran tahay, soo install leh. kadibna waxaad ku dhuftaa markaas activate. Okay, plugin-ka marka waxaa ujeedaa qaybtaada bidixda inuu kasoo muuqday markaasi hoose. So waa kaasa marka waxaad sameysaa isla asigaas dulta, kadib waxaa kasii doorataa meeshan ay ku qoran tahay import ku dhufo. ilaan template-ka ayaan soo import gareynaynaa. kadib meeshaan kusii dhufo import from, waxaan leenahay file aan ka dooranaynaa. file markii aad ka doorato wuxuu ku dhex keenaa markaas qaybtaada computerka oo ku dhex keenaa markaas filesh ku jiraan ama qaybta download-ka. So filekii markaan soo degsano taa sabab template ku qoran tahay 2 jeer aan ku dhufanaynaa ama asiga ku dhufo kadib open dheh. So waa kaasa marka wuxuu ku leeyahay waa soo import gareysmaa. marka waa sugaysaa ilaa inta uu ka gaarayo 100. So marka 100 gaaro waa kaasa ma hubtaa oo ku leeyahay san leenahay process hore u soco. marka waxaa ujeedaa inuu hadda fileshi dhammaay oo restore gareynayo oo website-ka ugu soo celinayo uu soo gelinayo. marka waa sugaynaa intoo markaasi filesha waxyaabahaas dhan nooga soo import gareynaya template-ka.
soo marka waxaa ujeedaa saadkaasi successful ayuu dhahay kadib finish ayaan ku dhufanaa oo usoo import garaysmay hal mar marka refresh hadda waxba isbedelayaan kaliya refresh isku dhufo adoo meel kale ku dhufanin refresh markaa ku dhufato meeshaan waxaad ku qortaa marka username iyo passwordkan username iyo passwordka sidaanay u qoran yihiin oo macnaha templatekan wuxuu kaa rabaa templatekii asoo import garaysma qofkaas wuxuu ku galahay inaad markaas aad isticmaasho soo marka usernamekii geli meesha kore kadibna hoos waxaa gelaysaa passwordka saasoo u egtaa marka username iyo passwordka templatekan kadib login dheh lacala haddii aan iloobo sidaas ayaad gelinaysaa xogtaasi oo mar walba template soo import garaysata macnaha saasuu ku leeyahay geli oo macnaha ileen website cusub soo import garaysay marka qaybtaada ayuu ku keenaa wakaasta dashboardka waxaa ujeedaa marka templateadii dhammaay inay nagu soo kordheen marka waxaan ku dhufanaa meeshaan kore waxaan iska xiraa websitekan booqanaa meeshaasaan ku dhufanaa kadib waxaa ujeedaa marka websiteki aan soo import garayn inuu sidaan u egyahay marka wakaasaa homekii courseski loginkii registrationkii wixii dhammaay sidaasi u egyihiin anaga keliya waa badbedelaynaa marka anigaa templatekan kuu diyaariyey oo markaasi waqti geliyey adiga soo import garay soo deg kadib waxyarka badbedel isla markiiba bilow inaa websitekaada aad koos ku dhex iibiso soo sidaas ayay u fududahay soo marka intaa sameysa qaybta dashboardka ku dhufo kadib waxaad dul tagtaa setting kasii dooratahay meeshaan ay ku qoran tahay general marka meeshaan site titleka ahaan iska hubi hadhow magaca websitekaada oo bedelma soo magaca websitekaada ku qora meesha tagline websitekaada wuxuu ku saabsan yahay soo maadaama websitekeeda uu yahay xirfadii lagu baranayo marka waxaan leeyahay waxaas baro xirfado kala duwan kadib markaa intaas sameysa save changes la iska dheh marka intaas aad sameyso marka waxaad dul tagtaa useries meeshaan ay ku qoran tahay kadib waxaad kasii doorataa ama meeshaan ay ku qoran tahay useries ku dhufo kadib meeshaan marka waa muhiim saa ujeed hadda user web sameyn dhaha kuu sameysan uma baahnid inaa user abuurataa markaas lagaa rabaa waxaad ku dhufataa keliya add new meesha ku qorantaa ku dhufo kadib markaa ku dhufato meeshaan waxaa gelisaa usernameka ama magaca markaas hadhow aad ku gal lahayd iyo passwordka abuuro ku leeyahy marka usernameka waa kaas admin aan leeyahay inta waxay dhaha marka emailkaad geli waa required labada u koreysa waa loo baahan yahay macnaa kuwan kale waa iskaga tagi kartaa haddaa rabto passwordka sidoo kale isaguna waa loo baahan yahay meeshaa magacaada koowaad iyo kan damba iska gelinaysaa marka intaas aad sameyso marka meeshaan websitekaada linkigiis geliyo ku dhahay hal mar waxaan sameynaa taab cusub ayaan fura raad keligaa le open link in a new tab waxaan sameynaa linkii websitekan soo koobiyeyna iska xir marka linkii intii imaamo marka waxaa dhahdaa raad keli kadibna bastida soo celi marka intaas aad sameyso markaas meeshaan waxaad ka sameysaa passwordka marka oo generateka oo tirada badan waa iska qarinaynaa mid cusub aan sameysanana waa iska tiraynaa kaasi kadib marka meeshaan waxaa sameystaa password sameyso soo hadda aniga kaba soo qaad passwordkana sameysanaa passwordkan iyo kaa dhumin hadhow asigaa login ku leedahay marka intaas sameyso waa xero soo deg meeshaan ay ku qoran tahay rool horteeda waxaa sameysaa waa fureysaa meeshaan waxaa ka doorataa administrator ka doora haddaad ka dooran weyso waxba hadhow kuma hagaagayaan soo administrator inaad tahay qofka websiteka maamulaya kadib waxaa dhahdaa add new user ku dhufo soo marka roolkaas hub inuu ku dooran yahay add new userna aad abuurato marka intaas aad sameyso marka waxaa dhahdaa keliya update password dheh update password hadda fiiri marka kan hoose ma dileedi karo soo waxaan sameynaa hal maraa meeshaas ku dhufana log out ayaan leeyahay asoo dhan waan ka baxayaa macnaha userkan marka hadda markaan fiiri marka qaab automatic username passwordka aan sameysto ii geliyay kadib login aan leeyahay marka usernamekii hore u sameysnaa oo web sameyn ahaa waa iska dileedaa marka okay waxaa sameysaa marka wax yaroo soo deg waxaa ku dhuftaa meeshaan useries all useries ku dhufo hadda marka fiiri markaan dul imaado delete option oo siinaa marka waxaan leeyahay web sameyn iyo delete ma rabo marka adna sidaa iskaga delete kadib waxaa dhahdaa attribute to all content to qofkaas adminkaas macnaha xogtoo dhan waxaa mas-uul uga dhigtaa adminkaas hebel ahaan marka waxaan leeyahay confirm deletion oo waan xaqiijinayaa soo hubi marka inaa meeshaas hoose aad tig saaratay kadibna confirm ku dhufo soo marka hadda waxaa saas ku abuurtay new user oo ku abuurto okay inta ayaa marka waxaa ka bilaabaysaa dhisidda ama sameynta websitekaada soo marka inta ayaa ka bilaabaysaa dhisidda websitekaada soo marka hal mar meeshaas kore haddii aad fiiriso waxaa ujeedaa markaasi magaca websitekeeda marka inuu dheer yahay kor kasoo muuqanaya marka edit profile aan leeyahay magacaas oo iska gaabinayaa okay waxyar hoos soo deg markaasi waxaa sameysaa meeshaan ay ku qoran tahay display nameka waxaan ka dhigaa bes admin ama magacaasan siinaa bes
kadib intaas markaa sameysa waxaa dhahdaa markaasi oo soo deg update profile ku dhufo. magacii waa u isbedela marka soo marka intaas saas ayaa markaasi waxaas u maamuli kartaa. soo marka waxaa sameysaa ugu dambeyn meeshan ay ku qoranta screen option hal mar fur, kadib waxyaabahan dhan tigta ka qaad marka nadiifi. soo markaa sidaa u nadiifiso aan u gudubno marka stepka xiga. stepkan intaas ayuu marka ahaa, waana stepka u muhiimsan. soo marka isku day inaan waxba aadan qaldin marka stepkan sameynayso oo user aad abuurato kii hore iska dileedo, qaybtaasaan ugu muhiimsaneed. soo markaan u gudubno markaasi stepka ku xiga. stepka afraad waxaan ku arki doonaa sida markaasi loo abuuro course classes. soo si aad u abuurto marka hore waxaan u baahanahay plugin cusub. qaybta dashboardkaada imaaw, kadib waxaa ku dul tagtaa plugins, kadib waxaa kasii doorataa add new. kadib meeshaan waxaa ku qortaa plugin la dhahayo WooCommerce. soo pluginka u baahanaa waa kaasa kaliya waxaa dhahdaa markaas install, kadibna waxaa dhahdaa activate garay. soo markaa activate garayso wuxuu ku leeyahay sadaab iyo waxaas ku sameey. marka waxyaabahaas oo dhan u baahnid waa iska laabanaysaa. okay, marka inta joogto marka waxaa tagtaa tutor LMS meesha ku qorantaa dulta, kadib waxaa kasii doorataa qaybta settingkeeda. tutorka macnaha pluginka ahaa oo koorsada lagu dhiso waa tutor iyo WooCommerce-gana isku xirana. kadib meesha marka waxaad ka doorataa monetization ay ku qoran tahay, waa taasaa ku dhufa halkaasi. kadib marka meeshan uu ku leeyahay e-commerce engine-kan waxaa dhahdaa WooCommerce ka dooro oo activate garay, kadibna waxaa dhahdaa save changes. ilaan isla shaqeeyaan labadooda. marka hore koorsada product ahaan u abuureynaa, kadib intaa galaaska course-ka abuureynaa waa isku xireynaa. so save changes markaa dhahday maxaa sameysaa markaasi waxaad dul tagtaa WooCommerce, kadibna qaybta settingkeeda tag WooCommerce. okay, markaa settingka aad tagto meeshaan marka waxaad ka doorataa account and privacy kasii dooro. soo intaa u baahanaa marka inaan habeeno. soo meeshaan wuxuu ku leeyahay marka koowaad u ogolaa macaamiisha inay hore akoonka ulahaa ay during markii lagu jiro login dhahaan tig saar taas. tan u hooseysa tigta ka qaad. tan wuxuu ku dhaha u ogolaa macaamiisha inay akoon abuurtaan my account page-ka oo tig saaro. taasna inay akoon abuurtaa intay koorsada iibsanayaan tig saar. midda u horeysana akoon la-aan wuxuu leeyahay akoon la-aan inay markaasi iibsadaan koorsada. marka wax tiktok ka qaadana noo aan leenahay. marka intaas sameyso waxaa dhahdaa marka save changes, intaas lee tig saaro. marka intaas aad sameyso marka waxaad dul tagtaa meeshaan ku qorantaa products, kadibna waxaad wax yar soo deg products dulta, kadib waxaa kasii doorataa add new ka dooro. halkaana productigan ugu horeyn ama koorsadan ugu horeyn aan abuureynaa. kadib marka tutorka ayaan ku xireynaa koorsadan. soo add new product marka ujeedaa koo wuxuu ku leeyahay product name magaciisa productigan. soo magaca u bixinayna marka koorsadan waxaan uga hadli doonaa sida website iyo waxyaabahaas loo sameeyo camal. waa waxaan test usoo qaadanaya ama tijaabo. marka meeshaan waxaan ku qoraa aan leeyahay sida loo sameeyo kaba soo qaad WordPress website. marka intaas aad sameyso marka wax yar soo deg meeshaan marka waa muhiim, waxaad ka doorataa saddexda matig waa saari kartaa. laakiin midda ugu dambeysa waa inaad ka dhigtaa for tutor oo tutor LMS aad ka doorataa, haddii kale hadhow waa ku wareereysaa. marka intaas sameyso price-kan hadhow waa ku tusi doonaa. meeshaan ay ku qoran tahay product short description-ka iska fududahay, faahfaahin yar aad ku qoreysaa oo ku saabsan koorsadan aad iibinayso camal waxaad uga hadleyso. hadhow tutorka dhexdiisana oo ka sameyneynaa dhimalaha, laakiin intana waad ku qori kartaa. marka intaas aad sameyso marka waxaa sameysaa wax yar kor u bax. meeshaan ay ku qoran tahay add category cusub aan abuureynaa. waxaan leenahay website sameyn camal oo hadhow products marka qofka dul taga waxaan rabnaa inuu categories iyo waxyaabahaas u arko ee hoos timaado. haddaan dhowr koorsa aan iibinin koorsadan ama productiga inuu yahay website sameyn. marka aad qorto magaca add new la iskaga dhufo buttonkaasi, asigaa automatic u abuurayo. okay, marka tigna saarantaa ujeedaa ka sooco wax yar kor u bax. marka meeshaan waxaan rabnaa product image aan soo gelino ku dhufo. kadib waxaa dhahdaa select file leh. select file markaa dhahdo waxaa sameysaa marka select file kadib inta ayuu ku keenayaa. meeshaan waxaa sameysaa marka image markaasi ka dooro. image thumbnail waa camal markaasi hadda arabta size-ka aadan fahmeyn YouTube thumbnailkiisa camal size-kiisa kaasi camal u sameyso koorso walba marka iibinaysa thumbnailkaasi. marka waa kana kaliya waxaan leenahay set product image hoosaan ku dhufaneynaa. okay, image inoo meesha kasoo muuqda ujeedaa marka uu ku darsamay. soo marka waxaa kaloo noo harsan ma jiraan. waxaan leenahay markaani publish aan ku dhufaneynaa meesha bottomkaasi. okay, wax noo dhiman ma leh. marka publish bottomkaasi ku dhufo aad ujeedo.
markaa publish dhahda marka waxaad sameysaa markaasi waxaad dul tagtaa meeshan ay ku qoran tahay products adoo jooga hal mar all products ku dhufo. soo hadda waxaa ujeedaa productii koowaad wakaas iyo abuuran sida WordPress website loo sameeyo. marka tuutarka dultag kadib waxaa ka doorata courses. hadda marka inta ka abuurana koorsada oo tan aan ku xirayna productigan. marka hore product aan waxuu abuur kadib kana ku xiray kadib waxaa dhahdaa add new. hadda waxaan dultaga tuutarka kadib koorsaan ku dhufta kadibna add new. plugin-kan qaab automatic uu kugu jira template ku raacsan yahay. marka koorsadii magaciisa le intan ku qor waxba ha ka bedelin. okay kadib categories uu sameeyo ku leeyahay haddana inta category cusub aan sameynayna website sameynaa leena isku midaan ka dhigayna category-yaasha. okay bottomkaas le ku dhufo markaa qorto sidoo hore camal asiga qaadanayo wax yar. haddana meeshan marka waatana marka meesha muhiimka ahan koorsada hadda wuxuu leeyahay nooc ka dooro ma paid ama waa free. waxaan leenahay koorsadan waa mid lacag ah. waatana marka koorso dooro ku leeyahay waa ujeedaa product dooro ku leeyahay productiga aan soo abuurno marka kaas saas la iskugu xiraa. marka intaas sameysa marka hadda inta galaasadii wax dhan ka qabanayna meeshan levelka ay ku qoranta waxaan leenahay oo levels macnaha bilaaw adeeg waxaas oo dhan. okay marka intaas aad sameyso marka meeshan set future image ku dhufo iyadana image aan soo gelinayna. hadda tuutarka dhexdiisaan joognaa labadooda saas iskugu xiraysaa. marka koobaad xag ka soo abuur soo image-ka waa kana kadib waxaa radaa set future image. okay image-ka waa noo raacay. marka maxaan sameynaynaa marka meeshaan marka waa buubuuxinaynaa. wuxuu ku dhaha marka what will I learn anigu kaba soo qaad maxaan baranayaa camal. soo koorsadan qofka muxuu ku baranaa wuxuu ku baranaa u sheegaysaa iyaga hadhow faahfaahinta kuu soo qoraa waa arki doontaa. soo koorsadan waxaa leedahay camal waxay ku saabsan tahay waxyaabahaas iyo waxaas ama waxaasaad ku baranaysaa qofka hadal yaroo dheereen markaasi adiga oo ahan at least labo markaas line aan ka badnayn. marka intaas sameysa meeshan ku xigto wuxuu kaa rabaa marka inaad ku qorto target audiences-ga dadka markaasi aad target garaysanayso koorsadan ay ku socoto. soo waxaan leeyahay koorsadan waxay ku socotaa dadka sidaas iyo sidaas aan u baahan inay waxaan barta ama waxaan qabta ama sameeyaan. marka saas sameynaysaa. marka ku xigta intaas aad sameyso marka qaybtan total course duration-ka inta saac soconaysa waa gelin kartaa. soo waxaan leeyahay kaba soo qaad waxay soconaysaa 2 saacadood ay soconaysaa. intana waxaan leeyahay kaba soo qaad iyo 25 daqiiqo ibartaas hore ka bixi 2 saac 25 daqiiqo soconay koorsada total galaasadoo dhan. marka ku xigta qodob kale materials included maxaa koorsadan loo baahan yahay shay marka qofka muxuu u baahan yahay camal. soo haddii arabtina website waxaa leedahay ama haddii kale meeshan hoose marka ku xiga waxaa waaye requirements qofka muxuu u baahan yahay. soo requirements-kan wax kale ma qalab nooco muxuu u baahan yahay kaliya marka waxaan leenahay waxaa u baahan tahay computer ama waxaas u baahan tahay internet haddii ay tahay koorsada abuuraysa mid markaasi waxyaabahan la xiriirta digitalka aan haddii wax kale aad laab ama caafimaad ka hadlaysa laaba u baahan tahay ama wax sidaas soo faahfaahin leh ku qoraysaa wax sidaa u adag ma. marka intaas aad sameyso marka ugu dambeyso waa buuxinay meesha marka wuxuu ku leeyahay course inter video-ga waa furaysaa waa dooranaysaa cidda video-ga waxaan leeyahay YouTube video miyuu yaalaa meelahaas Vimeo moo yaalaa. marka waxaan leeyahay intro linkiga aan meeshan linkigiisa soo qaadaa. soo website-keedaan booqanaya YouTube-ka intaan sii booqanaya marka koorsadaada su-aasha waxay tahay xagee kusoo upload garaynaysaa. YouTube-ka waxaa usoo dhigi kartaa koorsadaada galaasadooda dhan qaad private ama unlisted ahaan oo linkiyada soo qaadi kartaa sida anaga badan aan sameyno ama Vimeo oo ku hosti garaysan kartaa waa fiidiyoyaasha meelaha lagu hosti garaysto. koorsadaada public ma noqonaysa linkiga soo qaadaysaa harow dadka way daawanayaan laakiin WordPress video ha soo dhexgelin markaasi oo size badan sababtoo lagu matalagelinbo. marka aniga hadda website-keeda YouTube channel-keedaan booqanaa waxaan soo qaadaa inter video linkigiisaan soo qaadaa video hordhac macnaha koorsada ku saabsan tan qof walba arkaan qof aan iibsanin hataa waa hordhac ileen Soomaa koorsada wax lagu baro doono waxyaabahaas dhan. soo marka koorso hore waxaa jirtaan u diyaariyay waatana introheeda haddaad u baahan tahay iibsan kartaa adiga hataa sida blog noo sameeyo. marka tana linkigeedaan soo qaadaa copy link address aan leeyahay right click copy link address intii ma marka ku soo laabinta waxaa dhahdaa marka right click dheh sorry meeshan ku dhufo right click dheh kadib waxaa dhahdaa paste linkigii soo celi. soo marka kaas linkigii okay soo linkigu kaas marka waxaa sameysaa markaas intaas ay qabat haddaan koorsada galaasadeeda abuurayna marka okay hal mar waxaa dhahdaa marka publish marka intaas aad sameyso publish kor u bax publish ku dhufo. soo markaan dhowr wax qabato iska publish gareysaysan hadhow shaqadii kugu soo laaban markaas wixii kaaga tirtirmin hadduu lacala internet-ka go'am cilad iska dhici karto. okay marka intaas aad sameyso marka hadda hoos soo deg marka soo degto meeshan waxaa imaadaa course builder-ka ku qoranta haddaan course abuurayna marka add new topic meesha ku qorantahay ku dhufo. okay
soo koorsada noocyada taa inta dhowr koorso halka adoo ka hadlay dhowr galaas oo isku keeni kartaa marka bottomkan aan ku dhufanaa waxaan leeyahay marka anigu hadda magac gaaran u baxsan adigu marka hadhow topic name-ka magac gaaran siina waxaan leeyahay dhammaan waa all the steps ama all the classes dhammaan casharada hal koorsan waa okay hadhow topic kala gaar oo abuuri kartaa soo all the lessons saaray dhammaan casharada dhan oo koorsadaan ahaan marka aad topic ku dhufan marka meesha magac ku qorto waatana marka hadda wuxuu ku leeyahay all the lessons hoosteeda meesha ay qorantaa lesson ku dhufo meeshaas plus lesson-ka ay qorantaa macnaha topic-gan waxa waa ciwaanada hadda soo galgeli casharadii marka okay lesson name-kan ku qoraynaa magaca cashirkan soo waxaan leeyahay kan waa lesson 1 aan leeyahay soo lesson 1 am step 1 aan leeyahay ahaan soo ama waxaan leeyahay sidii waxaas loo qabta camal step koowaad ka lesson 1 aan adeegsanaa waxaan leeyahay 2 dhibcood soo waxaan ku qoraa magaca cashirkaas ku saabsan dadka hadhow ma arki karaan waxaan korey ka arkayaan way ogaanayaan laakiin qof aan iibsado ma ana qof kale ma arki karo soo sidii website-ka loo sameeyo camal soo waxaan leeyahay kaba soo qaad galaas koobaad mawduucana aniga aan rabaa inaan uga hadlo marka intaas aan sameeyo marka meeshaan hoos imaaw videoga waxa ku host garaysan yahay resource videoga waa halkee ma YouTube HTML Vimeo soo meeshaan fur marka waxa ka doorataa YouTube ka dooro YouTube anaga adeegsanayna okay maxaa samaysaa marka YouTube ka dul tag su'aal videoga aan soo qaada camal waa tijaabo videoga hadda waa public laakiin ada private ka dhig videoga marka YouTube soo dhigay session dadku arkan okay right click aan leeyahay waxaan sameynaa markaasi right click aan leeyahay marka inta waa ku dul imaana right click aan leeyahay kadib waxaan leeyahay markaasi copy link address aan leeyahay okay inta ku soo laabo marka hadda waxaan samaysaa marka right click dhe kadibna waxaan leeyahay paste soo marka mid haddana waxaan sameynaa meeshaan waa ku laabanayna camal videoga hadda intas daqiiqo socona fiiri iyo second waxa socona 12 second iyo 12 daqiiqo iyo 39 second soo inta minutes 12 daqiiqo ku qor intana second-kii ku qor hadhow casharkaasi inta qof ka socona karo ku arkaa macna second iyo daqiiqada haawar haday tan hagaas aad si wax ku soo qoraysa update lesson dhamar cashar koobaad saa u save gareyna waa kaas cashar koobaad meesha soo muuqdo okay lesson 2 aan ku dareyna meesha ku dhufo hadana lesson-kaas ku dhufo bottom-kaasi hadana lesson 2 aan abuurayna kor u bax marka magaca topic-kaasi waxaan leenahay topic-gan waxa waaye lesson 2 waaye casharka labaad ama step 2 kadib magaca sheeraa casharkaas lesson 2 kaliya dheen macna soo marka inta sameeyso hoos soo deg meesha description ku qori kartaa banaan hadaa rabtaa hata marka inta fur marka waxaad ka doorataa YouTube aan ka doorana style YouTube linkigiisa soo qaadana soo marka YouTube waxaan sameeynaa kana linkigiisa soo qaadana copy link address la right click inta imaaw right click dhe ama paste ama control v dhe okay videoga marka ku laabo meeqa daqiiqo socona 10 daqiiqo iyo 4 second okay inta waxa ku qortaa 10 daqiiqo intana waxa ku qortaa 40 second okay koro hadhow qofka arkaa daqiiqada second kadib update lesson dhe soo casharka labaad saasan ku abuurna marka okay hadaa rabtaa taasi qof walba u sii fahmo hadana cashar saddexaad abuura still process intii la waa macna wax weyn ma aha laakiin qof walba inuu process-kan fahmo raba qaab koorso la abuurayo okay kor u bax marka meesha lesson name-ka hadana ku laabo soo tagaba soo qaad waxaan rabaa inaan markaan aan ka hadlo qodob kale okay waxaan sameeynaa kanaan soo lesson name-ka waxaan leeyahay kan ka soo qaad waa lesson 3 waa qorso ma kadib maxaan siinaa marka magaca lesson-kan siinaa okay magaca lesson-ka si okay magaca lesson-ka waa si marka maxaan sameeynaa link website-ka waxaan soo qaadaa videoga waa kana okay right click copy link address intimaw hal mar hoos soo deg video source-ga aan adeegsanayno waxa loo yaqaanaa YouTube soo inta fur YouTube ka dooro okay kadib maxaa imaada meeshan ku dhufo right click paste control v waa dhigi kartaa laakiin adinka inay soo faantaan daqiiqadaha marka fiir hadana wuxuu soconaa 4 daqiiqo iyo 42 second inta 4 ku qor intana second ku qor oo galaaskaas ama casharkaas saddexaad uu soconaa kadib update loo soo waa un iskiisa sidaas waa wax adag maaha markaas qaab koorso loo abuuro marka intaas sameysay saddexdan lesson waa ana waqtiga inuu dheeraado marab galaaska soo maxaa sameynaa marka intaas aad sameyso publish marka hadaan ku tusaasay oo egta casharadii koorsadii ku soo baxaysa waxa soo dhan soo intaan ku gul jirno waxaan hadii point ku adkaada isoo weydii kartaa marka meesha ku qoran tahay linkiga waa kaasa marka koorsada soo waxaan sameynaa marka soo marka update dhaad hal midaan sameynaa koorsada qiimahan siinaa haday waan gadaalan ka sheegan dhahay hal mar waxaan ku laabanaa products kadib all products aan leeyahay waxaan rabaa koorsadan inaan siiyo price qiimaha intee tahay products-kan qiimaha laga soo siinaa products waa ku dhufta hadda tii haday aan abuuro waa kadib waxa la edit aan ku dhufanaa meesha soo edit ku qoran tahay
koorsada hadda in stock waa suuqay ku jirtaa laakiin price ma laha. So price kan siinayna waxaa sameynaya marka wax yaroo soo deg meeshaan ay ku qoran tahay qiimahaas hoosaa furaysaa. meeshaan waxaa ku qoraysaa shaygan qiimaha regular price intuu yahay. So regular price waxaan leeyahay waxaan rabaa inaan regular price aan badiyo laakiin sale price aan yareeyo. taas hore aan ka xariiqo qiimihii hore 20 ah laakiin hadda waxaan leeyahay $10 saasa u kala gelinaysaa. marka intaas sameyso update aa leedahay markaasi. So update markaa dhahdo hal mar tutor ku laabo kadib waxaa kasii doorataa meeshaas kore courses ka dooro. waa tutor LMS dusheeda kadib courses kadib waatan coursedii. So markaa intaas aad sameyso meeshaan waxaa ujeedaa coursedii waatan noo sameysneed. waa ku dhufan kartaa inta ama meeshaan view course ay ku qoran tahay ku dhuf kartaa. okay tanaan tultaga mar kuma dhufanayay kadib waxaan leeyahay waxaa iga furtaa inka window camal iga fur linkigan right kaligan dhaha waa kana marka lacala qof visitor ahaan markuu soo booqdo website-keeda ama koorsadaani si ay ugu soo muuqanayso waa hadadan waxaan galay window markaas incognito window waa fahmaysaa qiyaasa. soo marka waatan saanay koorsada u soo baxay magacii koorsada category ka tirsantaa price-keedii total hours inta soconaysay interview-gii wakaasa waqtigii koorsada la abuuray qiimaheedii wax yar hoos u degaa waa taasaa koorsada qofka maxaa baranaysaa faahfaahintii ay ku qornay requirement-iga audience-ga cidda koorsada ku socoto wixii dhammaan isku dheelitiran yihiin. okay inta waxaa ujeedaa course content wuxuu qofka baranaya inta course content inta class lesson ee koobanta qonfula saaran ujeedido qofka intuu ka iibsado maahe ma arki karo. okay lesson 1 wuxuu baranaa daqiiqada socoto waxa dhan taasaa marka qaabkaasa marka aad koorsada u abuuri kartaa iska fududahay waxa dhan isku dheelitir kartaa. markaan aragnay step ku xig ee waxaan bilaabaynaa shaqada website-keena sida loo sameeyo iyo qaybihiisa kale. soo markaan u gudubno step ka xiga. soo step ka shanaad waxaan ku arki doonaa si markaas loo sameeyo logo. soo saad loogu sameyso waxaad furtaa tab cusub fur kadibna waxaad tagtaa markaas website-kan lagu magacaabo logo maker. soo meeshaas u dambeys ida way ka maqanta waa makr.com kadib waxaa dhahdaa enter. okay inta ayuu markaas ku keenayaa mar kaliya waxaad iskaga dhuftaa meesha ay ku qoran tahay start my design. start my design marka dhaasaan uu keeno oo raadinaa page cusub oo keena logadaad inta ka abuuro kartaa. marka aad sida oo kugu soo baxo sida marka shaashadana ku soo booday waxaa dhahdaa create new design ku dhufo oo kala jeedinaysa design cusub iyo abuur hadiidan hore wax markaas shaqaadan uu resume aadan dhahin. okay kadib waxaana ku soo saaraa next dheh. marka intaas sameyso waxaad ku dhuftaa TS ku dhufo oo bidixdaada ah. okay kadibna meeshaan type something uu ku leeyahay waxaa ku qortaa magaca website-kaada loogada dabcan magaca website-kaada waa soo magaca website-kaada ku qor meeshaas kadibna waxaa dhahdaa select oo control A oo hal mar highlight saar kadibna color madow ay ka dooro meeshaas colorka rabta ka dooro. soo marka intaas sameyso hadaa rabta geesaha waa soo sakin kartaa saasaad ugu soo sakinaysa calaamadaas fallaaraha. mar kadib hal mar dooro marka doorato waxaad ku dhuftaa meeshaas ay ku qoran tahay style korkiisa. okay kadib meeshaan ay ku qoran tahay biyaha ku doornaata bold kadibna line width-ga ama culayska farta xaggaas aad ka yar waaweyneen kartaa. okay sidaas sameyn kartaa kadib marka meeshaas kore oo searching-ka ah waxaad ku qortaa waxaan u baahanahay icon aan u baahanahay iconka marka hadaan u baahanahay mid education camal u eg waxaan u baahanahay kaba soo qaad lambi camal aan u baahanahay lambi. okay oo markaas noqonaysa camal kaba soo qaad iftiin bahashan laambad ahaan camal aan u baahanahay. soo waataasa marka tan iska doortay soo la ekaysi marka wax yar yaray sawirkeeda iyo qaasho la ekaato dabcan. okay soo marka sidaas isku la ekaysiiso waxaad sameysaa iyadoo ku dhufo kadibna meeshaas midigtaada color ka bedel gaduud ka dhig madow ka dhig blue soo colorka website-kaada la u ekaysi logadaasi. okay marka intaas aad sameyso markaasi tan xoogaa qoraalkan la ekaysi wax yar oo isku aadinaya hadhow mar rab inay labadood kala dheeraadaan. okay markii aad sidaas sameyso isku la ekaysi meeshaas hoose crop ee fur ay ku qoran tahay kadib logada marka waxaan rabnaa inaan geesaha ka yareyna waxaan ku soo saaray geesaha ka yaray la ekaysi kadib saxdaas ku dhufo. okay hadday ku aadantaa marka san safe u dhahno waxaad sameysaa tan wax yar yaray hadaa rabta iyaduna. okay wax yar okay soo intaan iska dhaafayna meeshaas kore ku dhufo markii ay ku qoran tahay si hal mar haddana meesha crop hoose ay ku dhufo crop marka ku dhufato marka meeshan haddana size xoogaa ka yaray geesaha camal. okay kadib marka meeshaas kore ku dhufo oo ku qoran tahay safe logo ahan
kadib waxaa dhahdaa download low resolution file png file kasii dooro kadib meeshaas tig saar accept the terms kadibna download free soo loogadaadu kaasa qaabkaas ay kugu soo baxday. marka xigta waxaan arkaynaa iconkaas bisan u baahannahay. iconkaas marka qoraalka waa dileedina iconkan bis iconkan hadhow waxaan ka dhiganaa meesha koro site-kan saarana website-ka korkiisa anaa ku tusi doono kadib isna save dhe meeshii haday ku dhufo kadib tig saar kadib waxaa dhahdaa download. okay marka inta sameyso kan marka iconkan hadhow aan arki doonaa waxaan u adeegsan doonaa meeshaas kore saa u jeedo sawirkaas camal halkaas aan saari doonaa insha Allah. soo marka aan u gudubno step-ka xiga. soo step-ka lixaad waxaan ku arkaynaa sida qaybta header-ka iyo footer-ka markaas website-kaada loo dhiso ama loo hagaajiyo. soo hal mar haddii aan website-keena soo booqano qaybtan kore waxaa la isku dhahaa header ay ku qoran tahay loogada iyo menu-ga iyo bottomadana. sidoo kale haddii aan hoos soo degno qaybtan hoose waxaa la isku dhahaa footer ay ku qoran tahay loogada iyo markaas page-ka iyo waxyaabahan dhan. soo markaas waxyaabahan dhan loo hagaajiyo ama aan u hagaajino waxaan tagaynaa qaybta markaas backend-ga ee website-keena ayaan tagaynaa. qaybta backend-ga website-kaada marka aad tagto waxaad kasii doorataa meeshan ay ku qoran tahay appearance kadibna waxaad ka doorataa elementary header and footer builder. soo header iyo footer-ka annaga ayaa xilli hore goor u dhisna uma baahanta adiga markaas maxaa la inaad dhisto oo template-kan ayaa wata markii aad la soo degto. soo labadooda saan u hagaajino header-kan dul tagaynaa waxaan leenahay edit with elementary aan dul tagaynaa kadib waxaan leenahay right click kadib waxaa dhahdaa open link in a new tab oo tab cusub aan furaynaa. sidoo kale footer-ka inta ayaa dul tagaysaa edit right click kadibna open link in a new tab. soo kan waa header-kaada meesha kore ku qoran tahay sidoo kale kan kaasa waa footer-kaada labadooda. soo markaas hal mar isku la hagaajino laba tab ayaan furanay. soo header-ka haddii aan ka bilaawno hagaajintiisa ama dhisitaankiisa mar koowaad loogadan ku dhufo loogada markaa ku dhufato inta aad furaysaa choose image. soo kadib waxaan leenahay upload files kadibna waxaan leenahay select file ayaan leenahay. kadib waxaa sameysaa markaasi loogadaadii maxaa dhahay soo qaado. soo loogad markaa soo qaad kaliya waxaa dhahdaa insert media. soo loogadii wataasa waa soo qaadanay hal mar meeshan size-ka waa ka weyneyn kartaa loogada. mid samey marka qaybta ugu muhiimsan waxay tahay meeshan ay ku qoran tahay URL kan iska tir oo qofka hadhow markii ku dhufto loogadan page home-ka ay dhex geenaysaa. soo marka waxaa meeshan ku qortaa linkiga waxaad siisaa home ayaad ku qoraysaa qaybtan hoose home-ka kaas waa uu soo booday kadib ka dooro. sidoo kale kuwan haddii aad u baahan tahay waa hagaajin kartaa maxaa dhahay kanoo kale kaba soo qaad bottomka haddii aad rabto inaa maxaa dhahay loginka aan ku dhufto meeshan login ay ku qoran tahay waa iska bedeli kartaa oo waxaa dhigi kartaa si fudud sign in waa dhigi kartaa sign in waa dhigi kartaa laakiin hadda aniga uma baahni oo waxaan iskaga dhaafaa loginka ayaan iskaga dhaafeynaa. okay loginkiisii control z leen leenahay. sidoo kale waxaa sameysaa meeshan register waa ku dhufan kartaa iyaduna sign up inta waa ku qori kartaa intana linkiga waa soo gelin kartaa oo link register-ka ayaad ku dhufanaysaa inta waad tiraysaa hal mar waxaa leedahay register ayaa leedahay register page-ka register asiga ayaa kuusoo boodayo oo kuu sameysan yahay registration wakaasaa page-ka uu ku sameysan yahay kana hal mar dultag page-kan loginka asiguna wax kale ma ah waa iska tiraysaa meeshan my account ayaa ku qoraysaa. dabcan hadhow linkiyadan waa muhiim isku hubi marka meeshan my account ku qor oo page-ka wuxuu geenaa loginka ayuu geenaa kana wuxuu geenaa page registration-ka. kuwan haddii aad rabto size-kooda iyo waxaas waa hagaajin kartaa style aad tagaysaa kadib meeshan ay ku qoran tahay menu waa furaysaa main menu-ga marka typography waa furaysaa typography color-ka waa 18 haddaas waad sii wadi kartaa 19 soo 18 kan iskaga dhaafeynaa inta weight-kooda waa bedeli kartaa 600 waa ka dhigi kartaa 7 iskaga dhaafeynaa. sidoo kale meeshan qofku markuu dul imaado waxaad sameyn kartaa underline hadda waa dul imaado kan saa ujeeda hoos ayuu markaasi iska xariiqaa sidaas waa sameyn kartaa ama haddii kale underline ka bedel waxaa sameyn kartaa tagasto waa dhigi kartaa oo qoraalka ayaa soo boodayo tii adiga markaas maxaa lahay kulron overline-kan waa sameyn kartaa isaguna kor uu laga xariiqayo ama haddii kale framid waa sameyn kartaa oo square ayuu gelinaa. soo aniga hadda marka waxaan leeyahay non aan leeyahay ma u baahni waxyaabahaas oo dhan. sidoo kale waxyaroos haddii aan usoo degno color-kooda inta waa ka bedeli kartaa guduud waa ka dhigi kartaa madow waa ka dhigi kartaa haddaad rabto inaad lacala color kale aad kusoo darsato keliya waxaa meeshaan aad hal mar furaysaa color-ka ku dhufo kadib color-kaa rabto haddii aad rabto blue oo kale inaad save garaysato hal mar blue saas u dooro kadib calaamadan balaaska ku dhufo kadib meeshan waxaa ku qortaa blue ayaad ku qoraysaa kadib blue markuu qorto create aad leedahay. soo hal mar liiskan haddii aan ku dhufto inta waxaa ujeedaa colorka bluega inta ayuu kuu soo galay marka madowga ayaan ka dooranayna iskaga dhaafeynaa kan markaa intaa sameyso qaybtani mobile computerka hal mar waxaad ku dhuftaa responsive mode kadibna qaybtan mobileka tag
mobilka hal mar haddii aan iska xiro wakaasa sida saxda wakaasa oo waxyaabahan ha ku wareerin sababtoo ah waxaan lagama arkayo mobilka dadka haysta computerka laga arkayaan soo marka waxaan dhan waan qariyay waa laba header wax noo samaysan sida saxda wataasa marka loogadan aan bedelaynaa saa u bedelna kaliya ku dhufo loogada sidoo wax kala sameyn kadib inta fur media library aan tagana maadaama loogada hore usoo upload gareynay waa taasaa ku dhufo loogadaadii kadib insert sida ugu muhiimsan waxay tahay meeshaan linkii ay ku qoran tahay iska tir kadib home page-ka ay ku qor meeshaan homeka wakaasa okay hal mar haddii aan laabo wakaasa sidaas soo baxaysaa marka cabirkeeda aan weyneyno saa u weyneyno waxaan tagaynaa style kadib meeshaan wirtiga waxaan geenaynaa ilaa 70 aan geenaynaa 70 inta waa laba okay wakaasa loogadeedii hal mar haddii meeshaan aan furo sidaas ay ugu soo baxayaan page-kii background haddii aad rabto background-ka cadaanka inaad bedesho waxaad sameysaa waxaad tagtaa hal mar menu-gan ku dhufo horta markaa ku dhufato style aad tagaysaa waxaan furaynaa meeshaan ay ku qoran tahay drop down ayaan furaynaa markaa furto wax yaroos ayaa usoo degaysaa maxaa lahay meeshaan ay ku qoran tahay markaasi background colorka inta ayaad furaysaa waxaa ka dooranaysaa guduud text colorkan haddaa rabtana waa furaysaa isaguna waxaad ka dooranaysaa cadaan okay soo saa ujeedo cadaanka wakaasa guduudkan wakaasa mar control sidaan leeyahay sidoodii hore aan iskaga soo celina haddii aad rabto waa bedeli kartaa sidoo kale size-kooda haddii aad u baahan tahay inaad mar walba hagaajiso mar walba drop down-kan ayaad furaysaa kadib typography ayaad furaysaa typography marka aad furto meeshaan waxaad ka hagaaji kartaa weight-kooda iyo size-kooda waxyaabahaas dhan waa ka hagaaji kartaa size-kooda wakaasa intaasi saad rabto waa dhihi kartaa sidoo kale markii aan typography kasoo tagno haddii aad markaasi maxaa lahay aad rabto inaad ka bedasho hover markuu qofka dul imaado kale inta ayaad ku dhufanaysaa waxaan leenahay waxaad ka dhigtaa text colorka markuu qofka dul imaado gaduudan ka dhigtaa soo gaduud wakaasa intoo kale background colorka waa kan gaduud oo noqona markuu qofka dul imaado haddaa rabto waxaad dhigi kartaa text colorkan waxaad ka dhigtaa white cadaan sidoo kale background-kana waxaad ka dhigtaa gaduud ka dhig wakaasa hadda background-ka waa gaduud colorkaadana wuxuu isku bedelaa cadaan ayuu isku bedelaa sidoo kale marka wakaasa sidaas ayaa sameyn kartaa kadib waxaa leedahay update oo hadda haddii aan sanjag aan siiyo wakaasa sidaas ayuu usoo muuqanaa headerkeedii sidaas ayaan u hagaajinay okay kana wakaasa isaguna soo marka intaas aad sameyso hal mar haddii aan taga qaybtan tabletka oo inta aan iska laabo tabletkan sidaan ayuu u muuqanaa dadka haysta computerkana maxaa lahay sidaan ayuu markaasi ugu soo muuqanaa kanoo kale isaguna haddii aad rabto loogadan aad dul tagto inta aad sii dul tagto meeshaan haddii aad rabto colorka waa bedeli kartaa oo hadda waxaan leeyahay guduud text colorkan sorry hal control sidaan leeyahay hover ayaan dul tagaa meeshaan hover markii aan dul tago inta waxaan sideedii hore aan kusoo celinaa hover markaan dul tago inta kore waxaan text colorka waxaa iga dhigtaa guduud background-kana waxaad ka dhigtaa text color guduud aan leeyahay background-kana waxaad ka dhigtaa colorka cadaanka oo kale cadaan waa save garaysan kartaa hal mar meeshaan waxaa dhahdaa white maanta oo dhan len ma qori kartid white create leedahay okay hadda markaad dul imaado fiiri white isku bedelay oo kaasa okay guduud iyo white background guduud colorkan waxaan ka dhignay white waa hover markii normalka ahaa waa kaasa colorkii sidaas ay u muuqday sidoo kale kuwaas waa sii hagaaji kartaa maxaa leedahay markaasi update markii aad dhahda marka waxaan sugno kadib waxaa dhahdaa preview change soo markaas u muuqanaya ayaan fiirinaynaa soo ayuu u muuqdaa marka saa ujeeda wakaasa bottomkii haddii aan ku dhufto marka meeshaas kore aan ku dhufto oo loogada aan ku dul dhufto saa ujeeda wuxuun dhex geenaa pageka homeka ah oo aan ku xirnay markii xigta markaan aragna footerka si loo hagaajiyo footerka sidaan u muuqdaa mar koobaad loogada aan bedelno ku dhufo loogada kadib inta fur kadib media library ayaa leedahay kadib waa kaasa soo qaada sawirkaada kadib waxaa sameysaa meeshaan linki ay ku qoran tahay iska tir kadib waxaa ku qortaa home pageka ama pageka magaciisa ku qor markaa intaas aad sameyso meeshaan ay ku qoran tahay markaas contact aska sidoo kale waa sii bedeli kartaa oo waxaa dhihi kartaa about us markaa dhahdo oo waxaa soo qaadan kartaa haddana text editorkana soo qaadan kartaa intaas oo dhigi kartaa oo companygaada faahfaahin ku saabsan waa qori kartaa laakiin inagu hadda maanan sameyn oo waxaan kaliya ku siina waa maxay waxaan waa sample adigo haddii aad rabto waa hagaaji kartaa soo sidaa u bedesho xogtaan marka inaa xogtaada ma aha inta lee ku dhufo qalinka lee ku dhufo kadib waa kaasa intuu dhex keena nambarkan waa bedeli kartaa wakaasa waxaa doonta ayaad markaas meesha ku qori kartaa emailkaada sidoo kale pageskan oo kuwaana iyaduna waa muhiim soo pageskan homeka mid walba waxaad hubisaa inuu linkigiis u wato pageka homeka oo kale dultag home ku qor meeshaas linkiga home wakaasa pageka waxaa furtaa haddana courses ay ku qorantahay inta waad iska tiraysaa waxaa ku qortaa courses ku qor page courses kukaas wuu soo boodaa ka dooro sidoo kale inta waxaad sameysaa about us iska tir isaguna linkigiisa kadib waxaa ku qortaa about qor linkiga about pageka ahaa ayaa kuusoo boodayo wakaasaa ka dooro sidoo kale markii xigtana contact askan isaguna maxaa lahaay hal mar iska tir
kadib meeshaan waxaa ka doorataan contact us kasii dooro kadib wakaasa markaa intaad sameyso sidoo kale haddii aad rabto pageka homeka oo kale magaciisa halkan waa laga bedeli kartaa sidoo kale meeshaan waxaad ka bedeli kartaa iconka oo hadda kaba soo qaad waxaad dooran kartaa iconka noocan oo kale oo kaasa sidaas oo kugu soo muuqana kan kalena waa sameyn kartaa isaguna iconkaas kale ayaa dooran kartaa marka xigtana social media aan dul tagayna hal mar koobaad haddii aad rabto inaad linkii aad kusoo darto kaliya Facebook oo kale maxaa lahaay linkigiisa halkaas soo gelinaysaa YouTube-ka haddii aad rabto inaad mid kale kusoo darto add item aad leedahay kadibna meeshaan aad furaysaa kadib meeshaan waxaa ku qortaa Twitter oo kale kaba soo qaata ama mid kale Telegram kadib halkaas ka soo muuqana markii xitaa haddii aan style hal mar aan tagno kadib maxaa lahaay meeshaan aan furno ay ku qoran tahay icon hover kadib meeshaan waxaad ka arkaysaa primary color secondary-ga oo hadda kaba soo qaad color koobaad waxaan ka dhigaynaa gaduud ayaan ka dhigaynaa gaduud saa u jeedo kaasa mar walba aan hover dhaho wuxuu isku bedelayaa markaasi gaduud ayuu isku bedelayaa okay secondary labaadna waxaan ka leenahay maxaa leenahay waa cadaan meeshaan animations waa ka bedeli kartaa oo qofku markuu dul imaado sidaas waa dhigi kartaa animationada noocaas oo kale kaasaan iskaga dhaafeynaa marka xigta iconka haddii aad dul tagto kaasa midabkooda size-kooda inta waa ka weyneyn kartaa inta waxaad sameyn kartaa spaceka u dhexeeya oo kale inta waa ka habeen kartaa iyaduna okay marka xigtana sida copyright haddii aad rabto inaad kusoo darto inta ayaad hal section aad maxaa la calaamadan balaaska ay ku dhufo kadibna hal section inta ka dooro kadib meeshaan kore waxaa ku qortaa markaasi dul tag elementska waxaa raadaysaa lahaayo copyright kadibna wakaasa inta soo jiid inta soo dhig kadib waxaa dhahdaa alignmentiga qaybta centerka kadib sidoo kale meeshaan text colorka waad furaysaa waxaad ka dhigaysaa black sidoo kale meeshaan typographiga at least waxaad ka dhigaysaa at least intaana gaarsiinaysaa sidoo kale meeshaan weightka waxaad ka dhigaysaa iyaduna kaba soo qaad 600 aan iskaga dhaafeynaa sidoo kale hal mar waxaa sameysaa meeshaan ay ku qoran tahay intaas ayaan ku dhaafeynaa sidoo kale haddii aan meeshaan kore ku dhufano hal mar aad copyright ku qorto kadib meeshaan copyright waxaad soo dhigi kartaa loogada hoosteeda waa soo jiidi kartaa oo halkaasi waa soo gelin kartaa control sidaan leenahay marka labadaas sidii ku roon kadib marka ugu dambeysa update haddii aan dhahna responsive mode-ka aan hoos ka doorano kadibna mobile ahaan aan fiirino mobilka sidaan ugu soo muuqana loogado kale okay size-keeda waxaa hubisaa inay loogada ku weyn tahay sidoo kale contact askan yaray size-kiisa typography dhe size-kiisa intaas ayaan ka dhigaynaa hal mar dulta copy dhe kana dul imaanaysa waxaa leedahay kaliya right click asna paste style aa leedahay kan dul imaa right click dhe kadibna paste style oo macnaha isku style oo siinaa nambarada u yareyna marka xigtana waa kaasa okay meeshaan hoose waxaa ujeedaa inuu ku dhegan yahay bottomka wax yar hal mar sectionkan ku dhufo kadib meeshaan advancedka inta kala fur kadib bottomkan waxaa siisaa ilaa iyo 20 ayaad siinaysaa oo hoos fiiri maxal ah haddaan xaro inaa hoos xoogaa yara ujeedo xoogaa yaro banaana hadda kasoo baxday sidoo kale computerka isaguna waxa la ahay markii qofku uu kasoo galo hal mar update aan dhahno inta isaguna kala sii fur inta waxaad ka dhigtaa isaguna 20 ka dhig okay update markaasi kadibna calaamadan preview changes ay ku qorantaa ku dhufo soo kaasa hadda haddii marka aan ku dhufto loogada aan ku dhufto oo hoos aan usoo degno markaasi waxaan rabnaa inay hoos space ka soo muuqato soo ujeedo space ayaa markaas hoos ka hena haddaad rabto space kan waa sii badin kartaa ilaa 30 waa gaarsiin kartaa qaybta waa bottomka ayaana siinaysaa maxaa lahaay space-ka aad u dhaxaysiinaysaa marka wakaasa qaybta header-ka sidaasaan u habeenay page home qofka haddii uu ku dhufto loogadaas oo kale fiir hadda isla page home kale uu dhex keenaa haddana sidoo kale login page-ka register-ka wakaasa page-ka oo dhan sidoo kale next step aan ku arkaynaa marka sida loo hagaajiyo page-kan kale footerkiisa ujeedo sidan ayaan u habeenay macluumaadkii wixii dhammaan u soo gelinay marka step ku xiga aan aragnay sida loo hagaajiyo qaybaha kale ee page-ka soo step toddobaad waxaan ku arkaynaa sida page-ka website-ka loo dhiso sida home page-ka soo hadda saa ujeedo waxaan dhex taaganahay website-kana gaar ahaan markaas page home-ka marka koobaad intaadan page-ka aadan edit gareynin page-ka aad rabto markaas dhex tag hadda home-ka kale waan ku dhufanaynaa soo hadda waxaan dhex taaganahay page home-ka ayaan dhex taaganahay marka waxaan rabaa page home-ka inaan dhiso soo marka saan u dhiso meeshaan kore ay ku qoran tahay edit with elementor ayaad ku dhufanaysaa oo elementor haddii aad xasuusato waa tarka wax kale ma ah waa page builder-ka markaas aan website-keena ku dhisi doono oo inta badan website-yada lagu dhiso wuxuu kamid yahay page builder-ada ugu caansan WordPress-ka markii la joogo ee website-yada lagu dhiso soo isagaas dooro marka aan sugno
okay sidan ayuu kugu soo baxayaa markii website-kaada maxaa la edit with elementor aad dhahday page-ka home-ka inta waxaad ku haystaa marka sectionadii dhammaa ee ujeeday soo section walba qayb walba oo kamid ah waan bedeli karnaa haddii aad rabto ku dhufato meeshan responsive mode-ka aad kasii doorato meeshan mobile dadka dabcan mobileka haysta sidaas ayuu ugu soo muuqanaa waxaa ujeedaa markaasi qaab qurxan inay tahay sidoo kale markii aad qaybta mobileka doorato waxaa ujeedaa inuu sidan usoo baxaayo oo maxaa la dadka haysta mobileka ay sidan u arkayaan qayb walba oo markaas website-kaada kamid ahan soo qaybahan dhan marka waan bedeleynaa koodi hore waxaan dooranaynaa sidoo kale tabletkana marka hore dadka haysta oo tabletna maxaa la iyaguna sidan ayuu ugu soo muuqanaa soo marka qaybta computerka haddii aan doorano kaba soo qaad sectionkan koowaad meeshan waxaan ku haysanaa sawir intana qoraal soo tagastigan haddaa rabto waad ku dhufo kartaa haddaad rabto inaad hagaajiso qalin kale ku dhufo qoraalka waa kaas inta ayaad ka bedeli kartaa soo style waxaa waaye style meesha aad ka qurqurxin lahayd soo hadda qoraalkan waxaa raba inaan ka dhiga markaasi maxaa la uppercase ama capital waxaad tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay markaasi transform meeshkaas waxaad ka dooranaysaa uppercase oo qoraalkaada u weynaanaya sidoo kale weightkan haddii aan furo horteeda iyadana waxaan ka dooran karaa 700 sidoo kale wakaas intan waxaad ka maamuli kartaa markaasi typographiga ayaad ka maamuli kartaa okay sidoo kale meeshan waxaa waaye meesha aad markaasi ayadana aad qoraal kale ku qor lahayd ama qaybta hero-ga ayaa loo yaqaanaa qaybtaani oo tagastiga aad rabto ayaad ku qoraysaa hadda qalinkaas leen ku dhufatay qalinka markii aad ku dhufato inta ayuu ku keenayaa qaybtan bidixdaada titleka halkaani waad ka bedeli kartaa soo marka waxaan leenahay kaba soo qaad horo soo inta tagasta la iskaga qoray dabcan hadhow adiga qoraalkan qoraal ka duwan ayaad ku qoranaysaa kani waa sambal oo maxaa la adiga hadhow tagastigan tagasta ka duwan ayaad ku qoranaysaa tagastigan haddii aan rabno inaan bedelno waxaan tagaynaa style kadib meeshan typography ay ku qoran tahay aan kasii tagaynaa soo hadda saa-idoo tagastigan uu weyn yahay waa 65 waxaan ka dhigi karnaa kaba soo qaad 60 aan ka dhigi karnaa sidoo kale bottomyadan waa bedeli kartaa labadan bottom haddii aan kan ku dhufto kaba soo qaad wuxuu ku leeyahay let's join us bottomka marka tagastigiisa haddii aad rabto maxaa la inaad hagaajiso ama wax oo dhan waxaad ka maamuli kartaa qaybtan styleka soo hadda macluumaad ku qoran waa kaasa halkaasa ka bedeli kartaa marka waxaan sameynaynaa sidiisaan iskaga dhaafaynaa meesha ay linkiga ku qoran tahay waxaan ku bedeleynaa markaas maxaa lahaa linki page ayaan ku xiraynaa oo waxaan qoraynaa courses marka aad dhahdo pageka courseska ayaa kuu soo baxaa wakaasa soo linkiga hadhow qofka markuu dhufto pageka courses ayuu dhexgeynayaa sidoo kale contact askan isaguna markaan ku dhufano meeshaan linkiga waxaan ku xiri karnaa pageka markaas maxaa lahay contact as ayaad ku xiri kartaa oo isaga kuu soo baxayo kaasa labadaas batan markii lagu dhufto dhow sidaas ay noqonayaan marka xigta haddii aad rabto inaad sawirkan aad bedesho waa bedeli kartaa sawirka ku dhufo kadib inta ayuu kuu soo baxaa media library ayaa leedahay kadib sawiro badan ayaa meeshan kuu soo baxaa sawirka aad rabto ayaa markaas soo qaadan karta soo hadda sawiro kale meeshan kanoo kale haddaad rabto insert media leedahay wakaasa mar control sidaan leena sidiisii hore ku celinayna haddii aad rabto sawirada noocan oo kale inaad hesho waxaad tijaabisaa website loo yaqaano factories image sidoo kale waa kana website-kan waxaan isku dayi doonaa maxaa la inaan linkiga dhigo haddii kale halkaas ayaad ka searchi gareyn kartaa waxaa loo yaqaanaa storyset.com ayaad dhehaysaa kadib waa kuwaas sawiro noocaad rabta ayaad helaysaa markaasi maxaa lahay kadib sawirka markii aad ku dhufato kale kanoo kale kaba soo qaad halkaana waxaad ka bedeleysaa kalarkaadii haddii aad kood haysato halkaas soo dhigaysaa haddii kale kalar kale ayaad dooranaysaa kadib wakaasa sidaas oo kugu soo baxa shayga aad raadisa ayaad markaasi maxaa lahay aad kuu soo baxayo oo meesha searching haddaa ku qorto kaba soo qaad courses camal haddaan ku qoro waxaa ujeedaa markaas wax koorsooyin la xiriiro kale kanoo kale soo qaadan kartaa kalarkiisa waa bedeli kartaa kalarkiisa wakaasa waa bedeli kartaa kadib waxaa leedahay download png ama download cvg png gana wanaagsan kusoo deg kadibna halkaas ayuu markaasi kaaga soo baxaa marka websitekaas aniga hadda sawirkan kasoo qaata halkaas waa kasoo qaadan kartaa kan waa iska xiraa marka xigta marka hoos ayaan usoo degaynaa qaybtan waad bedeli kartaa oo maxaa lahay waxyaabaha markaas dadka ay qaadayaan qowda hore waxaa leedahay online courses waxaan leenahay kaba soo qaad qaybta faahfaahinta hoos aan ku dooranaynaa waxaan leenahay kaba soo qaad dooro new course cusub qofka waxaan leenahay kaba soo qaad dooro camal course cusub oo markaasi si uu barto kadib meeshaan home tutoring ay ku qoran tahay waxaan leenahay waxaad ku barataa adigoo markaasi gurigaada joogo kala baro sidoo kale qaybtaana maxaa lahay offline courses waaye ee ku qoran tahay iyaduna waan bedeleynaa tagastiga hoose descriptionka waxaan leenahay kaba soo qaad waxaan leenahay download waxaan leenahay kaba soo qaad download any course
tagastigan hadhow hal mar ayaa markaas wada hagaajin doonaa kaliya iska qoraysa aniga ku tusi doono meeshaan download hal mar aan saxno kadibna special offers ma ay ku qoran tahay iyadana waxaan leenahay hal mar iska dir get so waxaan leenahay get kaba soo qaad special get waxaan leenahay kaba soo qaad special discount iyo kala qiimo dhimis helaan leenahay so marka intaas aad sameyso mid u horeysa imaanayna si saaid loogu jeedo waxaan tagaynaa style meeshaan waa furayna tagastiga waxaan ka dooranaynaa black colorka markooba typography aan furayna haddana weightka waxaan ka dooranaynaa kaba soo qaad 500 haddana meeshaan transform ay ku qoran tahay waxaan ka dhigi karnaa kaba soo qaad capitalize oo kale aan ka dhiganaa sidoo kale maxaa lahayd meeshaan typography-gan oo kaas waa ka maamuli kartaa iyaduna sidiisaan ku dhaafeynaa marka intaas aad sameyso hal mar dul tag waxaa dhahdaa copy bas aad leedahay kana dul imaanaysaa right kaligaa leedahay kadibna waxaa leedahay paste style mujeedido style isku mid ayuu qaadanaa kana sidoo kale dul tag paste style aad leedahay kana waa dul tagaysaa paste style ayaa leedahay soo sidaas isku bedelayaan online courseskan isaguna dul tag inta ku dhufo kadib style kadib waxaa dhahdaa typography waxaan rabnaa inuu tagastiga kale kastoo yar uu ka weynaado soo intaasaan ku dhaafeynaa isaguna 22 kadib waxaan leenahay copy kana dul imaanaynaa kadib waxaan leenahay paste style kana dul imaanaynaa waxaan leenahay paste style kana dul imaanaynaa waxaan leenahay paste style soo dhamaatood sidaas ayaa u hagaajin kartaa marka xigta about us kan waa bedeli kartaa oo sawirkan hadaa rabta ku dhufo waxaa dhahdaa juice media upload files ama media library soo hadda media library-gana saan qiyaasa sawiro kale noogu jiraan dhimala kuwana iska soo qaadanaa oo kana iska soo qaadanaa meeshaan about us ay ku qoran tahay wakaas ku dhufanaysaa tagastigeeda typography tag kadibna size-ka halkaas ayaad ka bedeli kartaa haddii aad rabto waxaa la transform dhigi kartaa uppercase waa dhigi kartaa sidoo kale meeshaan weight-kan waxaa dhigi kartaa 600 ama haddii kale 700 waad dhigi kartaa okay marka xigta meeshaan waxaa leedahay welcome okay waxaan leenahay kaba soo qaad halahan waa iska tiraynaa welcome to our website soo hal mar style aan tagaynaa kadib typography aan leenahay kadib transformka waxaan leenahay uppercase mid walba qoraal maya ama waxaan leenahay capitalize mid walba tagasti weyn nooga dhig okay weightka waxaan leenahay at least waxaad ka dhigtaa 600 soo intaasaan ku dhaafeynaa tagastigan waa bedeli kartaa meeshaan no more about ay ku qorantahay ku dhufo waxaad dhigi kartaa kaba soo qaad haddii aad rabto waxaad dhigi kartaa kaba soo qaad len kaba soo qaad waxaad dhigi kartaa sorry waxaad dhigi kartaa hal mar meeshaan koro bottomkan kugu jooga len waxaad dhigi kartaa kaba soo qaad len more ayaad dhigi kartaa more ii qoran tahay intaan iska tiraa len more ayaad dhigi kartaa hadhow qofku markuu bottomkan ku dhufto page-ka about us-kan ku xirano soo marka meeshaan linki ay ku qoran tahay dultag iskaga dhufo iska tir waxaa si kadib waxaa inta ku qortaa about us ku qor page-ka about us-kan uu soo boodo wakaasaa ka dooro soo hadhow markuu qofkan tago halkaas ayuu ku dhufanaa haddii aad rabto inaa alignment-kan aad centerka ageysa halkaas aad ku dhufan kartaa leftiga justify-ga soo taasna waa dhigi kartaa marka waxaan ku dhaafeynaa maxaa lahay centerka haddaad rabto bottomkaadana medium waa ka dhigi kartaa sidoo kale large waa ka dhigi kartaa marka smallka iskaga dhaafeynaa marka xigta meelahani waa bedeli kartaa tagastigan years experience-gan soo iska dhaafeynaa sidoo kale qaybtan ku xigta haddii aad rabto isticmaali kartaa soo hadda take a class select course kuwan tagastigan hoose waa iska diraynaa kan waa iska diraynaa kan contact askan waa iska tiraynaa tagastigan hoose waa iska tiraynaa kuwan sideedan ku dhaafeynaa marka xigta video ayaa inta yaalo soo ku dhuf qalinkaasi kaba soo qaad videoga waa kaas youtube-kaas ayuu qofkan link ka soo qaatay oo hadda videogan haddii aan play aan dhaho shaashadaas ayuu markaas ku furaa soo shaashadaas ayuu ku furaa video ayaa markaas play dhahaya haddii aad marka waxaa sameyn kartaa sidii aan galaasyada hore kusoo aragnay koorsada markaa abuureynay youtube-ka ayaa tagaysaa linkiga soo qaadanaysaa video aad soo koobiyeynaysaa inta ayaad soo dhigaysaa okay haddaad rabto inta sourciga aad adeegsan karto Vimeo, Dailymotion, self hosted oo computerkaada oo kale self hosted waa kasoo qaadan kartaa marka hadda youtube-kiisii hore ayaan iskaga dhaafeynaa videoga qaybta ugu muhiimsan marka waatana qaybtan ay ku qoran tahay courses waaye okay bottomkan waa iska bottom kalmar tagastigan ku dhufanaa kadib maxaa la centerkii gey kadib meeshaan tagastiga ah waxaan ka dhigaa or courses ayaan ka dhigaa or courses hal mar waxaan tagaa style sidaan tagastigan iskula ekeysiiyo kadib waxaan leeyahay typography aan furaynaa kadib meeshaan transformation-ka waxaan ka dhiganaa uppercase
kadibna waxaan leenahay alignmentigan waxaa ka dhigtaa centerka ayaan ka dhiganaa. kadib tagastigan typographigiisa waxaan ka dhigaynaa at least waan weyneynayna maadaama kan uu yahay koorso. haddii kale waxaan sameyn karnaa hal mar columnkan waa iska dileedaa, kadib dileedaan leeyahay. okay so dileedaan leeyahay marka tagastigan hadda hal mar haddaan ku dhufto oo typography aan tago weightko kale waxaan ka dhigi karnaa 700 aan ka dhigi karnaa ama 800 si fiican loogu arko. okay or courses dadka say koorsooyinkeen iyo waxyaabahan bixinay u arkaan. so marka waxaan sameynaynaa kuwan waa iska dileedaynaa hal mar intaan dul imaanina meesha close-kan ku dhufanaa. so hal mar marka meeshaas quarantine ayaan ku dhufanaa 6daas dhibcood. kadib meeshan search widgetka ah waxaa ku qortaa kaliya waxaa iskaga qortaa product iskaga qor. markaa qorto waa taas ay ku soo boodaysaa product grid oo waxaa wata markaas plugin-kii WooCommerce aan soo degaynay. waxaa sameysaa marka product grid-kaas hal mar maxaa la inta soo dhexdhig oo soo jiid halkaas soo dhexdhig. okay halkaas markii aad soo dhexdhigto wakaasa inta ay ka soo muuqanayaan koorsooyinkii iyo saddexdii koorsadan waa midii horaan oo buurnay, labadan kale markaasina gadaal ayaan ugu daray. soo marka waxaa sameysaa meeshan ay ku qoran tahay columnka waa 4 hadadan waxaan dhadaa 3 column bes ka dhig ayaan leenahay oo kaas 3 column. haddaad rabto waxaad dhigi kartaa 2 column iiga dhig, 2 column iiga dhig waa dhigi kartaa. marka sida caadiga 3 ku qoran 3 aan iska dhaafeynaa. soo bottomkan marka meeshan ay ku qoran tahay haddaan hal mar aan dul imaad aad ku arka ay ku qoran tahay show haddaan dhaho meeshan itusaan dhaho qofka hadhow wuxuu leeyahay buy now. meeshan buy now waa ka bedeli kartaa oo symbol productiga waxaa dhigi kartaa kaba soo qaad iibso hadda waad dhihi kartaa. halkaasaa tagastigiisa ujeeda iibso hadda waa uu isbedelay. marka buy nowgiis waan iskaga dhaafeynaa laakiin sidaas ayaad markaas aad u bedeli kartaa. sidoo kale haddii marka aan maxal lahay aan tagna meeshan style ay ku qoran tahay meeshan waxaa aan iska xirnatan meeshan dhowr waxaan ku haysanaa inta waxaan ku haysanaa kaba soo qaad add to cart bottomka ayaan ku haysanaa. bottomka midabkiisa haddaad rabto inaad website ku ekaysiiso intaa furaysaa add to cart bottomka markii aad furto hoos soo deg meeshan bottom colorka waa kana backgroundka waa madow waxaa ka dhigtaa fur meesha guduudka dooro wakaas waa guduud. meeshan hover ay ku qoran tahay inta imaaw backgroundka dooro kadib inta waxaa dhahdaa blue waa dhigi kartaa markuu qofka dul imaado colorka isku bedelayo. marka waxaan iskaga dhaafeynaa haddii aan rabno guduudkiisa. okay guduudkiisa ama haddii kale color yaroo markaas u dhigmo waxaan soo qaadanaa xoogaa yara madmadow guduud ahan sidaas oo kale. okay sidaas ayaan ku dhaafeynaa hal mar haddii markaas hoos soo degto meeshaan maxaa lahay products oo kale ku haysanaa content backgroundkaada galaar waa bedeli kartaa qaybta gadaal oo kale guduud waa dhihi kartaa laakiin sida saxda cadaanka ayaa ku wanaagsan cadaanka iskaga dhaaf. okay so courseskan oo kaasa qofku markuu dul imaado sidaas ay usoo muuqanayaan. tagastigan haddii aad rabto maxaa lahayo iska dileedeynaa dileedaan leenahay. so hadda dhowr section aan sameynaa. sectionkan koowaad waa soo bedelnay, sectionkan labaad, kan saddexaad, kan afraad, midkan shanaad, kanna waa kii koorsada. haddaad rabto kan horey waa mari kartaa. waxyaabahana markaas maxaa lahay list of courses you can take waa sii hagaajin kartaa oo midkaa rabto iconkaas lee ku dhufanaysaa maxaa lahay sawirka iconka ayaad ku dhufanaysaa oo kaasa markaa ku dhufato inta ayuu keena juice image ku leeyahay icona website-kii haddaan kuu sheegay waa kasoo qaadan kartaa laakiin kuwan kuma sii dheeraanay sidooda ku bedelaysaa. meeshan kale sidoo kale u hooseysa hal mar haddii aan ku dhufto meeshan waxaa ku haysataa kaba soo qaad lessonskoo kale inta 10 aa bixiso waa 250 oo ku leeyahay. tiradan haddaad rabto waxaad ka dhigi kartaa 100 waa ka dhigi kartaa tirooyinka soconayo waa kaasa ilaa 110 camal. meeshan course successka inta waa 90% clientska ama students ayaa dhigi kartaa. meeshan qalinka ku dhufo kadib meeshan clientska waxaa ku bedeshaa students oo kale hal mar iskaga bedel students markaa ku bedesho. okay tagastigan hal mar waxaan ka dhigaa maxaa lahay sida kuwaas oo kale la simaa students ardayda kale markaa meeshan ay ku bedesho inta waxaa dhigi kartaa kaba soo qaad inta ardayga koorsadan qaadato waxaan dhigi karnaa kaba soo qaad waxaa waaye 90 arday camal ayaa qaadatay ilaa hadda 90 ku istaaga. speakerka ama maxaa lahay meeshan waa bedeli kartaa waxaad dhihi kartaa sidoo kale kaba soo qaad teachers waa dhihi kartaa inta markaas maxaa lahay macallimiin koorsada wax ka dhigaysa website-kan waxaan dhihi karnaa kaba soo qaad waa 10 teachers oo kale 10 macallin camal. okay soo marka inta sameysay update shaqadaada saysan markaas kaaga dhumin. hal mar waxaan sii tagaynaa marka responsive mode-kan hoose ayaan ku dhufanaynaa kadib wuxuuna dhex geenayaa mobileka kaasa kor ka dooro. dadka marka mobileka haysta website-keena sidan bay u arkayaan. okay haddaan iska xiratan saanay u arkayaan. marka inaa hagaajiso isna kaa rabaa tagastigan koowaad ku dhufa hal mar
tagastiga markaa ku dhufato waa kana typography tag. kan wixii aad ka bedesho macnaha computerkan bedelmayaan oo labadooda shaqo iyo isku malaha markaas oo mid walba meeshii aad wax ka bedesho. soo hadda alignmentkan oo kale waxaan dhihi karaa center mujeedid oo center ayaan dhahay. kana tagastigan welcome to our webcam waxaan leeyahay content tag isaguna centerka. kadibna waxaan tagaa style typographygan waxaa ujeedaa inuu qoraal kale ka weyn yahay marka waxaan leeyahay ka yaray kisto yar ilaa 15 oo kale iskaga dhaaf. hadda fiir haddii aan iska xiro si aad u wanaagsan ayuu markaas kusoo baxay. sidoo kale bottomyadana way saxan yihiin, faraha ka qaad sawirka waa saxan yahay. kuwaana wax error ah kama jiraan. okay tagastigan oo kale hadda about us kan oo kale ku dhufo kadibna content tag waxaa dhahdaa isaguna centerka oo kale edit waa dhigi kartaa. hal mar waxaa sameysaa isaguna typography kan waxaan leenahay waa uppercase ilaa qurxanaad arabtu waa bixi kartaa ama darab tagastigan oo iska dileedeenaba. okay soo about us kan ku dhufo kadibna waxaa dhahdaa content tag kadibna centerka ayaad dhigaysaa. okay tagastigan hadhow halkaas oo ku qoraysaa bottomkan ku dhufo isaguna waxaa dhahdaa centerka ayaad dhigaysaa dhex bartamaha. okay inta waa koorsooyinkii kale intana saa ujeedo waa meesha ay ku qoran tahay or courses ama koorsooyinka markaas aan bixino. okay soo wax error ah markaas kama jiro. hal mar haddii aan kor kasoo bilaabno inta waa qaybta heroga. okay ka soco sidoo kale inta waa kaasa waa qaybtani okay about us keena ku saabsan sawirkeedii wakaasa. inta waxaa lahay waa courseski aan bixinayno waxyaabahaas oo dhan. intana waa qaybta footerka. marka intaad sameyso tabletka isagana iska hubi haddii wax error ay ka jiraan isaguna sidoo kale waa inaad bedeshaa tabletka. saa ujeeda haddaan iska xiro dadka tabletkaas inkastoo iska yaryihiin ay isticmaalitaankiisa sidaasoo isaguna kusoo muuqana. okay hal mar haddii aan kan ku dhufto kale kaba soo qaad qalinkan aan ku dhufto oo meeshaan taga content ay ku qoran tahay waxaa dhahdaa 3. okay sidaasoo kugu soo qabanaa 4. okay kan control sidaan leenahay waxaan sameynaa sidiisii hore ayaan iskaga dhaafeynaa ama inta 2 aan leeyahay ama haddii kale 1kiisi aan iskaga dhaafeynaa dhimalaha 1kii aan iskaga dhaafeynaa. marka intaas sameyso shaqadaada marka update ayaa leedahay kadibna waxaa ku dhuftaa calaamadan preview change ay ku qoran tahay si aad isbedelkii waxyaabihii aad sameysaa u daawato. soo sidan ayuu noogu soo baxay tagastigii koowaad oo kaasaa tagastiga labaad. sidoo kale haddii aan bottomadan tijaabino kan aan ku dhufano wuxuuna dhex geynaa hadda saa ujeedo let's join us. markaan ku dhufano pageka courseska ayuuna dhex geynaa dabcan ujeedaa koorsooyinkii. hadda adiga markii maxaa lahay aad aniga hadda login oo yahay sababtoo adminki waxyaabahan wuxuu i tusaa waxay tahay wax kale maaha login ayuu i yahay laakiin adiga login ma arkaysid marka u horeyso. marka uusan markaasi websitekaada aadan adminka aad ka baxdo logout haddii aad dhahdo loginkaas ma arkaysid. contact askan haddii aan ku dhufto haddadan kaba soo qaat page ayuuna geenaa. marka mid waa sameyn karta oo u sheegi kartaa computerka oo waxaa dhigi kartaa kaba soo qaat bottomka markii uu ku dhufto waxaan rabaa inuu taab cusub furo. hadda kan oo kale ku dhufo markaa ku dhufato meeshaan linkiga ah linka optionkaas hal mar ku dhufo meeshaas kadib open a new tab meeshay ku qoran tahay waxaa dhahdaa update soo hadda hal mar haddii marka aan websitekan uuna dhex keeno aan kusoo laabana fiiro bottomka markaan ku dhufano waxaa rabnaa markaasi inuu markaas tab cusub noo furo oo waa tijaabinaynaa. soo hadda bottomkii let's join us hadda haddii aan ku dhufano waxaa ujeedaa inuu markaasi maxaa lahay tab cusub noo furaayo oo markaasina dhex geenayo. soo qaybahan kalena sidoo kale oo kuwaasa sidaas ayaan u hagaajinay. qaybtan course qofka markuu dul imaado bottomska sidaas ayuu markaasi maxaa lahay halkaas ayuu wuxuu ku arkaa koorsooyinka xiga. soo marka ku xiga aragna step ku xiga oo sida loo edit gareeyo pageka markaas about us iyo contact us iyo pageka markaas courseska. soo step ku xiga aragno. soo stepka 8aad waxaan ku arkaynaa marka page oo dhisa markaas pageka courseska loo hagaajiyo. hal mar haddii aan ku dhufano marka pageka courseska page course markii aad ku dhufato sidaan ayuu kuu soo baxaa. haddii marka aan hal mar aan ka galno inkayg window aan hal mar aan iga tuso oo maxaa lahay qaybta loginka iyo waxyaabahan isay u qarsoomaan. soo haddii hal mar aan dhaho go to my website oo websitekeeda aan dhex tago okay aan kasii doortay pageki ay ku qoran tahay courses aan ka doorto. soo waa tagaasa aad to car ayuu leeyahay
qaybta marka sida colorkan loogu bedelo waxaan ka dhex arkaynaa waxaan iga tusaa qaybta markaas maxaa lahay tutor elements-ka gudihiisa ayaan iga tusi doonaa. marka haddadaan fiiri markii aan inka windowgan aan kasoo dhex galay saadan u muuqdo marka hore meeshaan start leno ilay sababtoo login ayuu u yahaa marka adiga login kuu yahay wakaasa soo marka pagekan courseska uma baahnid adigu inaa update garayso oo 100 course aad soo dhigta ama kontonkii inta ay automatic ugu soo muuqanayaan pagekani kaliya meeshaan waa bedeli kartaa magacaada ay ku qoran tahay admin oo website-kaada koorsadana categories-keeda ay ku jirto waa samayn katiga aad aad to card oo lacag bixinta waa kaasa qaybaha kale waxaan la video u dambeeyay aan igu tusi doonaa markaas qaybkan lacag bixinta iyo waxyaabaha si loo furo soo marka hadda kaasa haddii marka aan rabno inaan midabkan aan bedelno buluuga maadaama website-keen oo dhan uu markaas gaduud yahay waxaan tagnaynaa markaas qaybta backend-ga ee website-kan ayaan tagaynaa soo qaybta backend-ga ee website-ka marka aad tagto wax yar hoos soo deg meeshaan ay ku qoran tahay tutor LMS waa kaasa dulta kadibna waxaan kasii doorataa qaybtan setting-ka kasii dooro soo setting-ka markaad doorato meeshaan ay ku qoran tahay design ayaa dhex tagaysaa design markaad tagto hoos soo deg meeshaan waa kaasa marka colorka aad ujeedo primary colorka waa blue hover colorkana waa guduud waa blue labadaba soo marka waa bedeleynaa ku dhuf qalinkaasi meeshaan marka colorkaada ku soo celin kartaa laakiin sida caadiga hadda waxaan iska dooranaynaa maadaama colorkan uu yahay guduud soo guduud ayaan markaas maxaa lahay aan copy leenahay kana inta imaanaynaa halahan waa iska tiraynaa soo inuu kan kaa diida laga yaabaa marka waxaad sameysaa ayr le guduud le meeshaani maxaa lahay ka dooro oo ku aadi bas soo hadda iska agdhow yihiin wakaasa guduudkan marka waa hoofa qofka markuu bottomka dhex tago xoogaa waxaan ka yar dhiganaa madow camal kaasna waa kee tiqday ahaa marka intaa samee save changeskaas kore ku dhufo ay ku qoran tahay hadda haddii website-keeda aan dhex booqdo marka aan dhex tago oo aan kasii doorto pageka ay ku qoran tahay courses aan ku dhufto waa kaasa waxaa ujeedaa meesha dhammeed inay guduud isku bedesho oo haddii aan marka halkaas aan dul tago right click aan dhaho aan kasii doorto open link inka windowkan wuxuu tusaa marka haddadan maxaa lahay guduudkii oo aad to card ayuu tusaa marka laakiin login aad tahay aad to card ma arkaysid sababtoo adiga ayaa markaasi gudaha ugu jirtaa soo hadda courses haddii aan dhex galo waa kaasa aad to cardka markaan ku dhufto guduud ayuu isoo qabanaa soo kan kaliya pageka marka waxaa u baahan tahay inaad midabkiisa aad bedesho wax kaloo sidaas u baahni sababtoo ah edit with elementor pagekani kaama yeelaa hadda haddii aan dul tago kaasa igama yeelaa edit with elementor sababtoo ah pagekani teamka ayaa markaasi templatekan ayaa aniga ayaa kuu sada abgaray oo wuxuu dhex taagan yahay courseska ayaan ku xirna pagekan oo wixii course ah soo dhigtay pagekan ayay markaasi soo galayeen soo marka aan aragna step ku xig iyo pageka about us si loo dhiso soo stepka sagaalaad waxaan ku arkaynaa sida pageka about us markaasi loo dhiso soo si aan about us page ku dhufno marka hore waxaad sameysaa website-kaada markaad aad soo booqato pageka about us marka koobaad ay ku qoran tahay ku dhufo si aan markaas aan u hagaajino soo markaa ku dhufato sidan ayuu kugu soo baxaa waxaad kasii doorataa meeshan ay ku qoran tahay edit with elementor ka dooro soo edit with elementor markaa dhahdo inta ayuu keenaa dhisitaanka inta ayaad ka bilaabi kartaa soo tagastigan ku dhufo marka koobaad tagastigan markaa ku dhufato kadib alignmentiga center waa dhigi kartaa oo sidaas camal about us waa dhigi kartaa soo tagastiga marka aad qaybta alignmentiga dhexda aad geyso marka ku xigta waxaan arkaynaa qaybahan si loo bedelo tusaale sawirkan haddii aad rabto inaad bedesho kaliya sawirkan ku dhufo kadib inta ayuu kasoo muuqanaa soo sawirkan halkaas kasii dooro kadibna waxaa dhahdaa markaas media library tusaale ahaan sawiradii hore noogu jiro mid kamid aan soo qaadanayna haddii aad rabtana markaasi sawir cusub qaybta gudaha waa kasoo gelin kartaa soo kanoo kale rabnaa kaliya ku dhufo kadibna waxaa dhahdaa insert media meeshan ay ku qoran tahay marka about us tagastigan marka waad tiri kartaa waxyaabahan oo dhan oo kaba soo qaad intaan waa iska bedeleynaa hal mar soo hal mar waxaa tagtaa marka style meesha ku qoran tahay kadibna waxaa dhahdaa typography meeshan transformka waxaan ka dhigaynaa kaba soo qaad uppercase aan leenahay inta weigtkana waxaan ka dhigaynaa at least 700 ayaan ka dhigaynaa sidoo kale tagastigan meeshan ku qoran hoosena waa bedeli kartaa haddii aad rabto markaas maxaa dhahay duplicate waa dhigi kartaa sidoo kale meeshaani waa kuwan hadday sameynin iyaguna markaas waa bedeli kartaa clientska kaliya ku dhufo qalinkaas kan ku dhufo kan kusii dhufo sidoo kale kana ku dhufo qaybtaana waa qayb kuu sameysan oo loo yaqaano fagmas frequently asked questions lacala haddii aad rabto inaad su-aashan aad bedesho qalinka ku dhufo kadib intay kasoo muuqanaysaa meeshan waxaa ku qoraysaa kaba soo qaad titleka ayaa ku qoraysaa markaas su-aasha soo hadda haddii aan meeshan su-aasha aan ku qorno soo meeshaan markaa su-aasha ku qorto qaybtan hoosena waxaa ku qoraysaa markaas maxaa lahay qaybtii faahfaahintii iyo markaas waxyaabihii hoos imaan lahaa oo kaba soo had e-learning waa qaab
at online ah soo qaybtan frequent asked questions saas ayaad u hagaajin kartaa. tan haddaadan rabin close waa iska dhigi kartaa, tanna close waa iska dhigi kartaa. haddii markaas ayagoo dhan aadan rabin qalinkaas waad ku dhufan kartaa oo halkaas waad dileedi kartaa. marka hadda waxaan leeyahay control z, sidoodii ayaan iskaga dhaafaa. meeshaana waa kaasa len markan meesha ay ku qoran tahay. waxaa kalood ku bedeli kartaa kaba soo qaad, waxaa kaloo dhihi kartaa meeshaan get in touch waad dhihi kartaa, maadaama hadda len markan usii baahnayn. oo waxaa ku xiri kartaa kaba soo qaad page contact us-ka, oo meeshaan haddii hal mar aan ku dhufano markaas aan ku qorno contact us, page contactigaan oo soo baxaa. soo halkaas ka dooro, kadibna waxaa dhahdaa alignmentiga at least dhexda kan ama geeskan sidaas samee. marka soo haddii aan qaybtan mobileka aan responsive modeka markaas aan ku dhufano hal mar oo mobile aan kasii doorano, soo dadka mobileka haysta kaba soo qaad marka sidaan ayay u arkayaan. textigan oo kale haddaad rabto hal mar style aan dhahno, asigoo dhan waxaa awoodnaa markaas inaan transformkiisa aan ka dhigno uppercase oo aan weyneyno, ama sidiisa hore aan iskaga dhaafeynaa. soo waxaan leenahay defaultiga aan iskaga dhaafeynaa. kadib saaskana wax yar ayaan yareyneynaa. weightkan waxaan ka dhigaynaa 700. sidoo kale meeshaani waa kaasa textigan qoraalka waa bedeli kartaa. textigan oo kale waxaan leenahay contentiga tag waxaa noo keentaa qaybta dhexda. kan waa iska dileedi kartaa isaguna, ama haddii kale waxaa dhigi kartaa textigan sidoo kale waa iska dileedeynaa maadaama about us ay kor ku qoran tahay uma baahnin. sidoo kale textigan waa kaasa isaguna ku dhufo hal mar, kadib style aad tagaysaa. waxaa dhahdaa isaguna centerka dhexda, kana ku dhufo isaguna style tag haddii aad rabto center ama sidiisa hore ku dhaafi kartaa. kuwana waa bedeli kartaa. meeshaan inta waxaa kaaga muuqda markaas frequent asked questions. kuwan lacala haddii aad rabto inaad midabkooda aad bedesho, kaliya waxaa tagaysaa style contentiga inta ku qoran tahay, oo textiga oo kale colorkiisa waa kana waxaa ka dhigi kartaa black tiqa ka dhigi kartaa. kadib typography aa leedahay. meeshaan weightka oo kale kaba soo qaad waxaa ka dhigi kartaa 600. sidaas ayuu kusoo baxaa. haddii aan iska xiro haddadan qaabkaas ayuu markaas leeyahay. soo sidaas ayuu kusoo baxaa. pageka about us markaa intaas aa sameysa. haddii aan tablet ku fiirino sidoo kale inta qaybta tabletka sidan ayuu muuqanaa. inta sidoo kale sidan, qaybtaana sidan. haddii hal mar meeshaan iska xirna shaashadan waxaa arkaysaa qayb walba page ka mid ah markaas inay sidaa isoo muuqanayso. markaa intaas sameys keliya waxaad dhahdaa markaas update leh. update markaa dhahday kadib waxaa ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay preview changes ku dhufo. soo kadib pageka markaas about us markaa preview dhahday sidaas ayuu markaas noogu soo baxaa. soo marka next step aan aragna markaas sida haddana loo dhisay pagekan markaas ay ku qoran tahay isaguna contact us-ka. soo stepka 10aad haddana waxaan ku arkaynaa markaasi sida loo dhisay markaas maxaa lahay pageka contact us-ka. soo si aan page contact us-ka u dhufno marka hore waxaad sameynaysaa isagoo ku dhufo. soo markii aad ku dhufato inta ayuu ku dhex keenayaa. saa ujeeda qaybtan sambalka hore anaga ayaa kugu sameynay. keliya adiga waxaad bedelaysaa keliya xogta meesha ku qoran sida numberkaada, apartmentigaada, infogaada iyo meeshaani markaas macluumaadkii emailka friend kusoo dhacaysa. marka waxyaabahaas oo dhan saa u sameyso waxaad ku dhuftaa isagana si lamid ah edit with elementary meesha ay ku qoran tahay ku dhufo. soo marka inta ayuu ku dhex keenayaa. textiga marka koowaad ku dhufo, kadibna meeshaan alignmentiga waxaan leenahay centerka ayaan leenahay. sidoo kale qaybtan intaasaan ku dhaafeynaa. inta hal mar hoos soo deg. meeshaan ay ku qoran tahay get in touch waa bedeli kartaa haddii aad rabto qalinka ku dhufo. sidoo kalena meeshaan maxaa lahayaa textiga waa bedeli kartaa haddii maxaa lahayaa aad rabtana dulta. kadibna waxaa dhahdaa right click kadibna delete iskale. sidoo kale xogtan waa bedeli kartaa sida phone numberkan oo kale wakaas hal mar inta ku dhufo. meeshaan marka waxaa ku qortaa numberka markaas aad rabto ku qori kartaa wakaasa. meeshaan ay ku qoran tahay sidoo kale addresskana wakaas iyadan hoos fur. haddii aad rabto addresska waa bedeli kartaa. iconkana sidoo kale wakaas addresska wax kale waa ku bedeli kartaa. sidoo kale meeshaan info ay ku qoran tahay domainkan wakaas haddii aad rabto inaad wax kale kusoo darto add item aa leedahay. wakaas meesha kasoo muuqanaa. kaba soo qaad haddii markaas aad rabto maxaa lahay inaad kusoo darto markaasi kaba soo qaad phone call oo kale markaas inaad kusoo darto. keliya meeshaan waxaa ku qortaa phone, waxaa kuusoo baxaysa markaas maxaa lahay iconka phoneka ayaa kuusoo baxaya wakaasa. kadibna meeshaan marka waxaa ku qoraysaa numberkii ayaad ku qoraysaa. soo sidaas ayaa sameyn kartaa. hadda marka waxaan iska leenahay delete. qaybtan wakaas qaybtan waa qayb social media. haddii aan hal mar aan ku dhufano qalinka dhammaantood inta ayay kasoo muuqanayaan. soo haddii kii aadan rabin waa iska bixi kartaa. hore waan usoo sheegnay haddii aad rabto inaad linki aad kusoo darto keliya ku dhufo social media kadibna linkiga halkaas soo geli. haddii aad rabto inaad social media kusoo darto kalena add item aa leedahay kadib inta ku dhufo
kadib midka aad rabto tusaale kaba soo qaad Telegram oo kale haddii aad rabto waa kaas halkaas ku qor kadib ka dooro kadibna waxaa dhahdaa insert inta ayuu kasoo muuqanaa ama haddii kale waa iska bixinaynaa hadda qaybtana maapkan haddii aadan u baahnayn marka iduna waa iska dileedi kartaa soo maapka markaa iska dileedo qaybtana kuusoo hareysa markaasi qaybtan haddii aan ku dhufano hal mar waa qaybta ugu muhiimsan waa contact formka waa meesha qofka la soo xiriiri lahaa soo simple contact formka markaas maxaa lahay waa mid hadda markaas anaga aan sameynay soo kaliya waxaad bedelaysaa meeshaan maxaa la emailka fariinta lagugu soo diraayo oo hadda kaba soo qaad meeshaan waxaa ku haystaa qofka namekiisa iyo numberkiisa emailkiisa ayuu gelinaa intana fariinta kadibna wuxuu leeyahay submit haddii hal mar style aa imaado meeshaan waxaa ka bedeli kartaa bottomka iyo waxyaabahaas oo dhan tusaale kaba soo qaad submit bottomka wakaasa midabkiisa gaduud waaye hadda haddii aad rabto waxaa ku bedeli kartaa midabka aad rabto buluug ayaad ka dhigi kartaa wakaasa soo gaduudkiisa ayaan ku dhaafeynaa markuu qofka hover uu dhaho markaasi dul imaado kale inta waa background colorkiisii waxaad ku bedeli kartaa gaduud waxaad ka dhigi kartaa noocaas wakaasa sidaas ayuu isku bedelaa soo qaybahana waa qaybihii labelska oo kale titleka iyo descriptionka oo kale meelaha waa ka bedeli kartaa marka kuwaan uma baahnid inaad sidaas usii hagaajiso waxaan ku tusaa marka u dambeysa qaybta marka emailka fariinta ee kusoo dhaceyso ah markaasi meesha ugu muhiimsan soo hal mar haddii aan dhahno responsive mode aan kasii doorano mobile waxaa ujeedaa markaas dadka mobilekaas inay sidaan usoo muuqanayn meeshaan oo kale hadda space ayaa udhexeysa haddii aan inta ku dhufano edit sectionkan oo advanced aan dhahno meeshaan waxaan ka qaadaynaa markaasi maxaa lahay waan kala furaynaa oo waxaa ujeedaa inuu markaasi space noo soo baxay soo hal mar waxaan leenahay markaasi edit sectionkaas ku dhufo meeshaas tiktok ka qaadaysaa kadib qaybtan topka oo kale waxaad siinaysaa kaba soo qaad ilaa iyo 20 ayaad siinaysaa soo markaa intaas sameyso hal mar haddii aan iska xiro shaashadan waxaa ujeedaa markaasi page contact formka markaasi maxaa lahay inuu sidaa usoo muuqanaa inta get in touch inta maxaa lahay inay ku qoran yihiin contact detailski sidoo kale inta social media inta numberski kadibna submit soo marka intaas aa sameyso haddii aan tabletka aan ku fiirinan waxaa ujeedaa dadka markaasi tabletka haysto maxaa lahay inay markaasi iyaguna sidaas u arkayaan sidoo kale haddii aan ku fiirino computerna dadka markaasi computerka haysto inay sida u arkayaan kadib waxaa dhahdaa markaasi update soo hal mar haddii aan social mediahan aan dul tagno oo style aan kasii dul tagno qofka markuu ku dhufto oo kale iconkan hover waa bedeli karnaa oo meeshan kore waxaan siin karnaa kaba soo qaad colorkaas ayaan ku bedeli karnaa blue hadda soo waxaan leenahay kaba soo qaad waxaan siinaynaa gaduud markaas maxaa lahay stockii hore ka duwan oo hadda markuu qofka dul imaado hokaasa gaduud sidoo kale waxaad ku sameyn kartaa animation oo markuu qofka dul imaado hokaasa sidaas ay isku bedelaan wayna nuuxsan karaan soo kii kulroon markaas maxaa lahay dhammaantood soo midkan kore ayaan iskaga dhaafeen haddaadan rabina calaamadaas closeka ee ku dhufo saas ayay kaaga baxayaan soo marka garowgana iskaga dhaafeena marka intaas sameyso waxaa dhahdaa marka update soo aragna marka qaybtaan maxaa lahay fariinta ee kusoo dhaceyso contact formkan waxaan tagaynaa qaybta backendiga marka koowaad waxaan leenahay preview changes aan ku dhufanaynaa kadibna waxaan tagaynaa qaybta backendiga ayaan tagaynaa ee markaasi dashboardkeena kadib hoos ayaa usoo degaysaa meeshaan markaasi ay ku qoran tahay meeshaan ay ku qoran tahay WP forms meeshaan ay ku qoran tahay WP forms meeshaan ay ku qoran tahay WP forms oo kaasa halkaas ayaad ku dhufanaysaa kadibna meeshaan maxaa lahay waa iska xiraysaa waxaan close aan leedahay kadib meeshaan saa ujeeda marka contact form ayaa noo sameysan oo simple contact form ah kaliya waxaa sameysaa contactigan ku dhufo oo waxaa dhahdaa edit ayaa leedahay soo waxaan arkaynaa marka emailkaada markaas ayaan gelinaynaa meeshaan oo hadhow markii fariinta lagu soo diro emailkaada ay kugu soo dhaceyso soo marka contactigaasi dashboardkaada tag inta tag kadib maxaa lahay waxaad kasii tagtaa meeshaan ay ku qoran tahay settingka tag markaad setting tagto waxaa kasii doortaa meeshaan ay ku qoran tahay confirmation meeshaan marka maxaa lahay sorry waxaad kasii doortaa meeshaan ay ku qoran tahay notification meeshaas ay ku qoran tahay notification meeshaan waa send to email address waxaad gelisaa marka meeshaan emailka markaas maxaa lahay cidda fariintan ay usoo dhaceyso soo emailka aad rabto inaad fariintan kusoo dhacdo soo emailkaada caadiga ayaa halkaas aad gelinaysaa qofka ma arkaayo kaliya laakiin fariin markii lagu soo diro adiga kuu soo dhaceysaa email subjectigaada muxuu noqonaa titlekiisa oo waxaan leenahay kaba soo qaad titlekan waxaa dhihi kartaa new message mar walba qof fariin soo dira markaasi waxaa dhihi kartaa new message from my website
saa u ogaata markaas fariinta inay websitekaada ka timaaday oo qofka adigu kuu soo diray. mar walba emailka titlkiisa waxay noqonaysaa fariin cusub waxay ka timaaday websitekeeda ayay ka timaaday. soo titleka sameey intaan from namekan magacan waa websitekaada oo kaasa emailka ee ka imaanaysa taas adiga shaqo ku milid oo qofka addresskiisa waa markaad u jawaabaysa reply iyo waxyaabahaas dhan ma bedelaysid. kaliya waxaa sameynaysaa meeshan emailka ee fariinta kusoo dhaceyso iyo subjectkaada iyo magaca ay ka imaanayso oo ah websitekaada. marka intaas sameyso waxaa dhahdaa marka save dhaho si markaas xogta aad u save garaysato. marka aad contact formka edit garayso hubi marka meeshan inaad emailkaada aad geliso si shaqadaada markay u dhamaystirto. marka intaas sameyso kadib calaamadan close ku qorantaa ku dhufo oo ka bax. soo kaasa contact formka markaasi soo hadda marka page contact formka sidaas ayuu noogu sameysan yahay. oo maxaa lahayd haddii aan marka hal mar aan websitekeena booqano oo hal mar aan ku dhufano meeshan ay ku qoran tahay contact aska meeshan kaba soo qaad qofka wuxuu geliyey xogtiisa ayuu sidan u geliyey. meeshan wuxuu geliyey test ayuu geliyey. test markuu u geliyey kadib wuxuu dhahaa markaasi submit ayuu dhahay. submit markuu dhahay meeshan waxaa ujeedaa fariintii inay u dhacdo thanks for contacting us we will touch in shortly. textigan haddii aad rabto inaad bedesho oo meeshan hadda uu noo soo saarayo waxaad tagi kartaa qaybta backindiga dashboardkaada ku laab oo meeshii hadda aan tagin isla meeshii ayaad tagaysaa hoos soo deg wb forms ku dhufo ku dhex dhufo idin laftigeeda. kadib waxaad kasii doorataa simple form contactiga kugu sameysnaa wakaasa. mar kale waxaa dhahdaa haddana edit ayaa leedahay oo textigaas markuu qofka fariinta diro maxaa lahay wax uu soo baxayo waa bedeli kartaa. oo hal mar waxaa tagtaa haddana qaybta settingka ayaa tagaysaa. markaa settingka aad tagta markaasi waxaad kasii doorataa confirmation waa kaasaa fariinta hadda usoo dhaceyso qofka maxaa lahay marka uu diro fariinta. soo meeshaan waa ka bedeli kartaa maxaa lahay oo kaba soo qaad intaan ayaan ku qoraynaa haddan. soo tagashtigan ayaan ku bedelnay kii hore meeshaan messagekana wakaasa. marka intaas aad sameyso waad ku mahadsantahay inaad nala soo xiriirto waan aragna fariintaada. soo tagashtiga intaas ayaan markaas ku dhaafeynaa. kadib waxaa dhahdaa safe dhe markaasi safe markii aad dhahdo haddii aad kusoo laabato meeshan general good haddii aad kusoo laabato meeshan general aad ku dhufato meeshaan waxaa ka bedeli kartaa bottomka magaciisa oo mar walba submit ayuu ku qoran oo waxaa dhigi kartaa dir fariinta oo kale waa ku bedeli kartaa laakiin hadda submit iskaga dhaafeynaa. soo marka intaas aad sameyso hal mar haddii aan kusoo laabano qaybtan fieldiga aan kusoo laabano fieldiga markaa ku dhufato inta waxaa ku haysataa formka kuu sameysnaa. meeshaan waxaan ujeedaa inay nameki ay tahay phone numberka lacal haddaa hadhow aadan rabin mid kamid ah labadood inaad bixiso phone numberka oo kale keliya waxaa dhahdaa delete ayaa dhigi kartaa kadibna okay ayaa dhigi kartaa. waa hadda saddexda form oo noo sameysan oo ah name phone iyo email iyo commentigan sidoo kale isaguna commentiga meesha ku qorantaa wakaasa ku dhufo inta waa ka bedeli kartaa ciwaanka oo waxaa dhigi kartaa message bas ayaan ku dhaafeynaa. hadda kaba soo qaad commenti oo dhan waa iska tiraynaa message ayaa ku dhaafeynaa. meeshaan phone numberkaaga waa kaasa waa bedeli kartaa waxoo dhan. marka intaas sameyso waxaa dhahdaa safe kadibna close aan leenaha saan u aragna hadda waxyaabihii aan ka bedelno dhan markaas inay iska bedeleen waxaan booqanaa marka websitekan ayaan booqanaa. kadibna waxaad kasii doorataa pageka ay ku qoran tahay markaas contact us. soo hadda haddii aan intaa aan buuxin hal mar oo sidii kale nameka aan gelino iyo aan gelino meeshaan phone numberka magaca fariintan aan dhahna markaas testi meeshaan waxaa ujeedaa markaasi message iyo comment ay ku qornaan inaa hadda message bas kusoo harto oo commentiga aan dileynay bottomkana sidoo kale magaci wax ku qoran waa bedeli kartaa. marka intaas sameyso waxaa dhahdaa keliya submit. soo submit markaa dhahdo waxaa ujeedaa meeshaan textigii confirmationka ahaa inuu leeyahay thanks for contact us waa aragna fariintaada oo markaas intii bedelnay intii yareedoo aan bedelnay markaas ay soo baxda. soo marka page contact us kastaan ayaad u hagaajin kartaa. soo marka waxaan arkaynaa steebyada ku xiga qeybaha kale ee markaas websitekeena si loo hagaajiyo ama si loo sii dhiso markaasi. soo step 11aad waxaan ku arkaynaa markaasi sida ardada loogu sameeyo markaasi enrollment iyo sida markaas loo sameeyo certificate ama shahaado loo sameeyo. soo marka si aan waxyaabahaas oo dhan u sameyno waxaa sameysaa tab cusub ayaad furanaysaa kadib waxaad tagtaa markaasi webdisa.com kadib waxaad gadaal ka raacaysaa magaca websitekeena waxaa gadaal ka raacaysaa tutor ayaad ka raacinaysaa kadib waxaa dhahdaa enter ayaad leedahay
soo markii inta raa dhahda waxaa meeshaan website-kan kuu keenay wax kale ma aha. Si aad markii enrollment aad u sameyso ardayda waxaa u baahan tahay inaad haysato tutor LMS qaybta professionkiisa. Tutor LMS kan wax kale ma aha, waa learning management system kan isticmaalayna. waxaa jira kuwo kaloo lamid ah sida Lendash iyo waxyaabaa jira, laakiin kan ayaan hadda markaas isticmaalayna. oo hadda haddii aan dul taga fiiriyo wuxuu leeyahay waxaad heshaa get professionka oo ma haysano. haddii marka aan hal mar aan ku dhufto meeshaan ay ku qoran tahay maxaa la ahaayay tutor LMS aan dul tago oo waa website-keeda midka aan ku dhex jira, haddadan aan add-onskan aan ku dhufto add-onskan markaa ku dhufato waxyaabo badan ku soo baxa sida enrollmentigan iyo sidoo kale inaad sameyso tutor certificate shahaado inaad sameyso. waxyaabahan dhan marka si aad u hesho hadda saa ujeeda log oo qunfula ka saaran waxaa u baahan tahay inaad hesho qaybta professionka. soo linkii website-keena markii aad tagto webdistro.com/tutor inta ku keenaa waxaad ka doorataa meeshaas kore ay ku qoran tahay tutor LMS ka dooro. markii aad ku dhufato waxaad kasii doorataa meesha midigtaada ay ku qoran tahay pricing ka dooro saa u ogaata qiimaha la iibiyo. soo qiimaha waa kuwana afar haysataa agency, business, individual iyo basic. kan basic waa midka hadda aan isticmaalayn u baahnid. soo marka haddii aad tahay qof shakhsi ah waxaa u baahan tahay midka individualka inaad iibsato oo sanadkii intaas la galo. oo meeshan wuxuu kugu siinaa mar waxaa waaye annual waa sanadle, sanadkii oo dhan inaad iibsato iyo lifetime. hadda sida caadiga annualka ayaa saaran sanadkii waa 199, lifetime asoo dhan haddii aad rabto inaad iibsato 499 oo mar kale aadan lacag bixinin. sanad walbana haddii kale intaan aad shubaysaa kii ku ron. kana hal site license ayuu leeyahay. sidoo kale kan business haddii aad leedahay dhowr website 10 site license waa kan waa unlimited waa kan. marka freega waxa uu leeyahay malaha ayuu freega wuxuusan lahayn ayay kuwan kale leeyihiin. marka iibsata marka plugin-kan qaybta profession kaliya waxaa leedahay plugins kadibna upload plugin aad leedahay. kadib meeshaan saa ujeeda Getbro way ka baxaysaa. marka saa ujeeda waxyaabahan dhan logo ay kaaga baxayaan ardayda waxay awood u yeelanayaan inay iska register gareeyaan. tusaale ahaan kaba soo qaat haddii aan website-keena inkay window aan ka furno lacala haddii markaasi maxaa la ardada ay kaaga iibsadaan koorsada qaab markaasi cash delivery ay lacagta banaankaas iyaan waxay awood u yeelanayaan markaasi maxaa la inaad enroll aad sameyso arday walba oo koorsada iibsado. oo kaliya markuu arday imaado waxaa dhada registration ku dhufo ujeeda meesha magaciisa koowaad uu gelinaa, magaciisa u dambeeya username-kiisa, email-kiisa, password-kiisa password-ka barkale ku celinaa. kadib wuxuu dhahaa register. markuu intaas sameeyo kadib waxaad tagaysaa meeshan students ahaan ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa. soo ardada is register garaysa magacyadooda inta ay kaaga soo muuqanayaan. kadib meeshaan marka waxaad markaas ku arkaysaa waxa la yahay enrollment. kadib enrollment ayaa ku dhufanay ardayga meesha raadinaysaa waa enroll garaynaysaa saddexdan koorso mid kamid ahaan tusaale ahaan koorsooyinka website-keena yaala midka uu iibsaday markaasi haddii kaba soo qaad uu tan iibsaday ama tan uu iibsaday sida WordPress ama e-commerce loo sameeyo koorsadaas enroll ku sameynaysaa marka plugin-kan iibsato. marka soo ugu dambeyn marka haddii maxaa la yahay plugin-kan aad u baahan tahay markaas tutor barim inaad iibsato linkigan isticmaal. marka aad isticmaasho haddii aad iibsato marka oo waxyaabahan dhan aadan fahmin dhima laha anaga ayaa free kaaga caawinayno. kaliya la soo xiriir ina soo sheeg markaas inaad iibsatay marka professionka aan iibsato waxyaabaha sida certificate-ka loo sameeyo enrollment waxyaabahaas oo dhan anaga muuqaalo ka diyaarinay oo markaas si free ah kaaga caawinayno. soo marka step-keeni xigay ah enrollment iyo certificate-ka sida loo habeeyo intaan ku ekeenayna. soo step-ka xiga aan u gudubno. soo step-ka 12aad ahna kan ugu dambeeyo waxaan arki doonaa markaasi sida xawaaraha website-kaada kor loogu qaado. soo si aan taas u sameyno marka waxaan u baahanahay plugin cusub oo shaqadaas noo qabanayo. marka waxaan tagaynaa qaybtan plugins ahaan kadib waxaan leenahay add new ayaan leenahay. plugin-kan ayaa wuxuu ka caawin doonaa markaas xawaaraha website-kaada inaad markaas aad kor u qaado. kadib meesha searching-ka waxaad ku qoraysaa markaasi plugin loo yaqaan markaasi light speed sidaas baad u qoraysaa. soo plugin-ka marka aad search gareyso aad raadiso sidaan ayuu egyahay waa kana ay soo degsatay markaasi 3 milyan. update waxaa ujeeda in 2 isbuuc ka hor update lagu sameeyay. marka plugin-ka u baahana waa kana waxaa leedahay kaliya install now ayaa leedahay. kadibna waxaa leedahay markaasi oo kuu soo dego activate ayaa leedahay oo activate garaynaysaa. plugin-kan marka asiga ayaa markaasi si automatic ah website-kaada xawaarihiisa kor u qaadayo. soo sida meeshaan kaaga jeedo wuxuu horumarin ku sameynaa dhammaan waxyaabaha website-kaada ku jira sida sawirada, image-ka, CSS lacala haddii uu code kugu jiro waxyaabahaas dhan. marka u baahnid inaad plugin-kan gudihiisa shaqooyinka bedesho marka asiga ayaa automatic waxyaabaha shaqo ah ku qabanayo. soo marka step-yada kale ee markaas aad ku yareyn karta markaas culeyska website-kaada oo aad xawaarihiisa kor ugu qaadi karto waxaa kamid ah mar walba aad sawirada soo upload garaynaysa ama waxyaabo markaas soo dhigaysa website-kaada waxaad hubeysaa markaas images-ka soo dhigaysa sawiradooda markaas inay 1 MB ka yar yihiin oo tusaale ay yihiin kaba soo qaad KB oo kale ay yihiin
50 KB 60 KB inay yihiin oodan markaasi sawiradood aad u yaryahay. sidoo kale meeshaan haddii aad tagto media waad ka helaysaa library haddii aad ku dhufato waxaad sidoo kale aad hubisaa markaasi inaad marna markaasi soo upload karayn oo aad kusoo dhex dhigin markaasi wordpresskani wax markaasi video sababtoo xawaaraha websitekaada saaid ayuu websitekaada u daciifa soo marka wax video markaas ka ilaali videoyada meelo kale ayaa lagu hoostaa Vimeo iyo waxyaabahaas isticmaali kartaa marka wordpress ka ilaali markaasi maxaa lahay inaad markaasi aad soo upload karayso aad soo dhigta markaasi muuqaal soo marka plugin inta automatic uu soo darsamo kaasa markaasi sidoo kale waxyaabaha kale markaasi xawaaraha website-ka kor u qaadayso waxa kamid ah pluginskan oo kale muddo kadib isbuucyo kadib bil kadib ama 2 isbuuc kadib soo laabo website-kaada wixii plugins markaasi waxaad ku sameeysaa update ku samee sidoo kale themumka haddii aad tagto meesha themeska oo appearance dhahdana themumka markaasi aadan u baahnayn iska delete garay oo themeka isticmaalaysa bas ha ku halka theme isticmaalaysa install ha ku ahaado ayaguna waxay ka cunayaan space sababtaasna waxay keeni kartaa in website-kaada culays noqdo marka step-yadaas samee si aad xawaaraha website-kaada kor u qaado soo koorsadani ahayd sida loo sameeyo markaasi e-learning website intaas ayaan kusoo keenaynaa ugu dambeyn marka haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadda website sameynta sida loo sameeyo blogging website sida muuqaalkani kaaga muuqata haddii aad jeceshahay website noocaas oo kale inaad sameyso news website oo aad jeceshahay hadhow inaad asensi ku xirto waxaa jirta markaasi koorsaan ka diyaarinay haddii aad website-kan aad booqato waad ka helaysaa soo haddii aad u baahan tahay inaad koorsadaas qaadato oo aad jeceshahay inaad barato xirfadda website sameynta waa nala soo xiriiri kartaa sidoo kalena haddii aad u baahan tahay in lagu sameeyo website e-learning e-commerce ama blogging website sida sawirkaaga muuqato si lamid ah iyaduna waa nala soo xiriiri kartaa oo website-yada markaas ku qoran oo dhan waan dhisnaa ayadoo aan markaas aan ku siinayna khalasan hosting iyo domain ahaan iyo support wax walba aad u baahata laga caawinayo soo hadda muuqaalka intaas ayaan kusoo keenaynaa si lamid ah haddii aad wax su'aalaha qabtaan waad la soo xiriiri kartaa qaybta commentiga waa iigu reebi kartaa ama haddii kale contact detailskan waxaad ka helaysaa qaybta descriptionka videogan halkaas waad nagala soo xiriiri kartaa soo muuqaalka xiga iyo khayr badan